السلام عليكم يا أهل الأصحاب. السلام عليكم بان إذن لا يحي وولاشين موة oo idin soo dhaweynaysa. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. waxaan rajaynayaa inaad caafimaad ku waartaan. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. soo dhawaada, barnaamijka waad la socotaan soo maaha. maanta aad buu xasaasi u yahay, waxyaabo badan baynu ka wada hadli doonaa. horta kow bal makeabkayga eega saaxiib. maanta miyaanan ku maanta waan ku warwadhay xoogay hablaha mikeejka jecel baan doonaya inaan yaro ka sheekeeyo saaxiibaya. Yeah, like I said, lashes ma xidhni because it's hard and then marabo I don't want my lashes to distract you. ma fahanteen? marka waxaan doonayaa inaad soo yara dhawaataan oo aad barnaamijka share garaysaan. waxaan ku bilaabanaynaa hees aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyn ah. yeah, heestaasi talo maxay ahayd? meeday heesaan gordhoydba dhegaysanaya. ila dhegaysta heestani. Welcome everybody. Yeah, telefoonada u yara kaabiya xoogay hordhaca aan soo bandhigay. intaana sheergaraya barnaamijka haddii kale barnaamij ma wadayo maanta ilaa la wada sheergarayo.
شير قريب برنامج كوان ديار سنة ناي إيران هويوي يا سلام waxaan idin barnaamijkani ma aha barnaamij loogu talagalay dad cay iyo aflagaada doonaya waa barnaamij intelligent ah waa barnaamij aan isku dhaafsanayno aaraar iyo warbixin waa barnaamij loogu talagalay dadka fahmaya marka hala gaarsiiyo dadkeena kale u baahan inay ka faa'iideystaan heestaasi hooyo waxaan u soo saaray inkastoo la socotaan barnaamijka ajandihiisa aan idiin soo qoray maanta iyo dooda aynu ka wada qaadan doono oo qodobadii ka mid ahaayeen feminismka waxay tahay radical feminismka dumarka Soomaaliyeed aynu ka hadli doono isbedel doonka hadda jira iyo kii hore waxay ku kala duwanaayeen iyo xasuuqa xuquuqda ka maqan xaqiiqda ah muxuu ahaydeenay dhibanayaasha Soomaaliyeed dumarka iyo ragaba single fathers iyo single motherada iyo dhalaanka ay ma aragtay korinayaanba lama saari karayo khaladka ragga kaliyaata because waxa jira hooyooyin badan oo qayr mas'uul ah carruurtooda ka dhaqaaqa oo aan anagu aragno shaahid u ahayn oo raggi ay carruurtii haystaan oo waalidkiisi la korinayaan marka waxa weey barnaamijkan heesta hooyaan ugu bilaabo waxa weey the first feminist naag Soomaaliyeed kamay horeynin hooyada waalidka dumarka Soomaaliyeed xambaari jira ayagoo dhalay oo caruuraha miiga ku haysta ay ma aragtay rari jireen reerka ay muxuu ahaydeenay biyo cabgeyn jireen ma garanaysaa oo awrta soo dhaamin jireen oo ma aragtay beeraha ka shaqayn jireen oo reerka maamuli jireen oo ma aragtay ay wax kasta guriga u sameyn jireen wax kasta guriga u sameyn jireen ay ma garanaysaa subaga luxi jireen oo ay ciirta saari jireen oo ay ma aragtay badarka tumi jireen oo wax walba qaban jireen marka hooyo Soomaaliyeed naaka karti badan hooyada wanaagsan baan ka hadlaya hooyo kasta lama oran karaayo naag kasto ilmo dhashay lama oran karayo hooyo wanaagsan hooyooyinkii wanaagsanaayo hore ayaan heestan aan ugu daaray soo dhawaada asxaabta aad baan idin ku mahad celinayaan mar labaad ka soo qayb gashaan barnaamijkan wax xasaasi dad baa ka caroon doona dad baa dooni doona inay ka doodaan dad baa dooni doona inay dhaleeceeyaan laakiin intaba uu furay barnaamijku maanta gaaliya muslimka soo aruursada maanta waa laga wada hadlayaa banaanka lagu soo daadinayaa cadceedan ka soo yaro durkay marka xaggaasaan u yaro ruqaansan doona mar dhow maraba wajiga inuu kala badhmo marka inagoo u gelayna ajandihii maanta waa maxay Somali feminism waxa laynagu wareeriyay me too baa ina wareerisay kowdaha marka me too da Somali feminism ku maxay tahay radicalism ka iyo Somali feminism radicalism kana maxay tahay labadaas in horta kala saarayna aniga aragtida sida ila tahay feminist waxa naag kasto karti leh oo Soomaaliyeed yaan magacan meel kale lagaaga keenin waa xaq u dirirka Soomaaliyeed waa xaq u dirirka Soomaaliyeed hooyooyinkeen baa ahaa kuwii kacaanka u kacay baa ahaa waxa kama khaldana walaalo indhahaaga fur harba yarahaya muxuu ahaydeen kuwii kacaanka uu kacay baa ahaa kuwii xoreeyay baa ahaa ma garanaysaa Soomaali ka xoreeyay cadawgii Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa ahaa Somali feminist xawataaka kamid ahayd waxa kamid ahaa dumar badan oo dawladihii Soomaaliyeed hore soo dhisay adna aadan dhakhtar ayaa kamid ahayd dadkaasi way dadkan anagu eeganaan tiigsanaan oo arkayna inay true feminist yihiin dadkii wax u qaban jiray Soomaali dumarkii Soomaali wax u qabtay kuwaas anagu aragnaa inay feminist ahaayeen uma arkayno qawleysatooyinka imika ku qaraabta dadka masaakiinta ah ee meel inta u soo fadhiistaan lacag ku urursanaaye maalin walba wajile kuwaas lama oran karo waa feminist lama oran karo waa feminist lama oran karo waxa qudirka dumarka lama oran karo waa dadka caawinaya dumarka Soomaaliyeed wax u qabanaya lama oran karaayo waxa weeyaan qof ma aragtay mabda iyo wajahaad leh qofku hadii wax qabanayo waa inuu mabda iyo target lahaada ujeedo toosa iyo meel uu rabo inuu wax ka qabto
wada toos ay u saxan tahay u jeexan tahay ama uu de ma aragtay raadsadaa garashadeeda iyo sidii wax uga qaban lahaa mushkiladaas jirta uu la taagsadaa dad ma aragtay khibro ah oo ma aragtay garanaya sida hawsha wax looga qaban lahaa okay ceelashii biyo yaraan baa dhacday jiidaasi biyo yaraan baa ka dhacday roob yaraan baa dhacday maxaa laga qaban karaa mushkiladii waa la isla qaadan karaya okay waxa weeye for example okay biyaa loo baahan yahay community-gii dad iyo xoolaba waxa weeye haraad baa jira beeraleydii everybody waxa loo baahan yahay biyo maxaa la sameeyaa sidee wax looga qaban karaya yaa ceelal qodi karaya ma la soo dhaamin karaya sidee wax looga qaban karaya bulshadii waa in ma aragtay des ajende iyo qorshe qeexan wixii loo sameeyo marka dumarka yiraahdaa xaqu dirirka hadda jira ayaan noqonaynaa community-gan ku qabanaynaa anigu uma arko inay yihiin kuwa wadada saxsanaa ku taagan qaar baa jira activist ah laakiin qaar badan oo wanaagsanna weyne oo ay kamid ahayd almas ilham oo ina yaro ma garanaysa ahayd true feminist ah Canadian ahayd aabaheed ahaa true hero Soomaaliya ka furo iskuulo oo la dagaalamayay dhibaatooyin badan oo haysta xitaa hubka dhigidii ma garanaysa dhalinyaradii ugu horeysay Soomaaliyeed ka qayb qaatay dadkaasi way dadka true feminist ay true heroes ka anagu u baahannahay Dr. Xaawo hadda dhimatay Allah yarxamar raaximiin oo in badan ku shaqeynaysa xirfadeeda hiil iyo hoo maalkeediiba gashatay maamooyin fara badan oo ururada haweenka soo sameeyay oo la dagaalama female genital mutilation-ka FGM-ka la soo dagaalamay muxuu haydeenay la soo dagaalamay waxyaabo badan oo community ka hor imanaya oo xuquuqda dumarka u doodaya ilaa imika gaarsiin dumarka inay heer baarlamaan ka qayb galaan dawlad kastoo Soomaaliyeed oo jirta Somaliland Puntland iyo Soomaaliya intaba dadkaasi way dadka isbedelka wada ee aan anagu hiigsanayna aan u arkayna true feminist inay yihiin dadka isbedelka wada ee doonayna wax ka qabtaan mushkiladaha Soomaalida haysata meel walba ay joogaan dadka dibadaha jooga family masaakiina Soomaaliya u turjumaysa raacaysa hor Ilaahay u turjumaysa taas waa feminist waxa weyn waxay doonaysaa horumarkii dadkeedii dalkeeda ma aragtay inay community-geeda horumaraan oo ay maaragtay qayb qaataan ma garanaysaa dibaddeginta ama repatriation-ka meelaha maaragtay nabadda ku helayaan community-yada Soomaaliyeed lama oran karaayo qof kastiba waxa weeyaan qof wax u qabaanayo dumarka Soomaaliyeed lamana oran karaayo raggu xitaa kama qayb qaataan muxuu ahaydana wax u qabadka community-ga Soomaaliyeed ee reerka uu sareeyo subaxban eegayay uu reerka u horeeyo reerka marka la eegayna waxa weeye aabaha hooyada iyo ubadkooda haduu Ilaahay ubad siiyay iyo waalidiintooda soo raacda marka doodii way noo furan tahay barnaamijkiina telefoonka way noo furan yahay dhowr call baan miskareeyay caawaan ka yar habsaamay asxaabta marka waad ka soo qayb gali kartaan waxaan doonayaa qodobada inaan ku sii socdo in yar kadib waxaan doonayaa inaan inoo saaro gabayar oo dhaqanka ah oo aan ku yaro sugno asxaabta kale imika soo galaysa si ay iyaguna chance u helaan inay ka faa'iideystaan barnaamijkani gabaygani waa gabayaro baraarujin ah waa gabay dhaqan guur la yiraahdo oo tiriyay abwaan qaaliya ya sugaan idinku soo celiye ila dhageysta sugaar Cabdulle Cumar baa gabaygani tiriyay waa kaasi يا ربي من سهل
Soomaaliya dhibaatada ku timid waa mid macweyne sidii calanka loo dhaliyay baa naga taagmeeyay sidii calanka loo dhaliyay baa naga taagmeeyay qofka tana dhaliyay iyo waxqabad uu dhigay kaydii inkastoo dhismiye maamulka ragay Soomaaliya dhaafay oo ila baqday xajinay dhacanta ma hayne takafaaka iyo jilanda haystay haye soo dhawaatay hadii laga la moodayo haye oo la isku wada dhaafay oo dhinacba meel goostay haye alla ilaahay dib baa muuqatay dhagayay yaabay dadku caankan wada intii ugu yamaamusi dalantii wax garad sidaan ula dhashaaleeyay waligii dareen wada soo dhiirin baa jiray dadka guuris baa idin ku dhacay dhaawac xoog badan takafaaka dunidii dibna way ku kaligiin inkastoo iyo halkii cunay maanta ma ka fiican macdalin يا سلام يا سلام halkaan inoogu joojiyo gabaygaas wuxuu gabay dhaqan guur oo uu inoo sameeyay abwaankeenii qaaliga ahaa Allah yarxamar raaximiina sugaal Cabdulle Cumar oo ahaa dhaqanyahan kana mid ahaa muxuu ahaydeenay fankii Soomaaliyeed raggii sameeyay muxuu ahaydeenay gabaye heesa badan iyo riwaayado fara badan waxa kamid ahaa riwaayadihii uu sameeyay ee aadka loo yaqaan kuwii caanka noqday salaam alaykum Ibrahim Jaamac caalin magaala joogxumo garanaysaan naadi cadceed baan nahay soo waa galab oo casar weeyaan oo gabdhihii make-up-kii afgaran la ayhiina waana kaaside xoogay waxbaan ismarinay make-up baan iska badanay kii aroosadahan ismarinay waa beegwacay iska daawada marka walaaleel waxaan idin eedhi dumarkan le waxaan u doodaynaa xuquuq oo group-aan sameysanaynaa ee isqaawinaya ee big wac miyay matalaan way dumarka Soomaali wala ma matalaan dumarka Soomaali mana matali karaayo qofku ku matalay waa inuu noqdaa qof sharaf leh qof barihi bulshada ma aragtay wuxuu qabtay community qof isaga doonaya in wax loo qabto qof ma aragtay mushkiladiisa si wanaagsan u soo bandhigaya qof aan caytamaynin qof aan community niyad jabinaynin qof aan ma aragtay dadka u tirinaynin qof wax qaadan karaya waa inuu noqdaa qof doonaya ma aragtay inuu de bulshada isagina wax qabsado umadina wax u qabto qof walba lama oran karayo wax buu qabanaya waad aragteen hana barata inantan la yiraahdo ee community-geedu kala jajabinaysay ee nolol gaarana lahayd iyadiina ma aragtay nolol gaar ku jirtay waxay tiri waan ka baxay wixii hore sameynaya haddana ummadiyadoo dhib badan ku haysa ayaa la soo bandhigay iyadoo dadkii ma aragtay sheekooyin aan jirin u sameynaysa mujtamacii ma aragtay wajigeeni iyo magaceeni ceebaynaysa baa la arkay iyadoo ganacsi ku jirta baa la arkay dadkii ma garanaysa caawiyay masaakiinta waxba u qabanaynin baa la arkay marka waa in aad looga digtoonaado dumar badan oo caynkaas walaalayaal soo baxay manaha wax loo adkeysan karaayo manaha wax ma aragtay umada lagu eegi karaayo qofka hadii isaga dhibaato hayso oo uu leeyahay intuu cadaysta aniga walaal hal la caawiyo de waxa weey waa lagu caawinaya waa maxay mushkilada ku haysata haduu qofkii yiraahdo walaalay dhibkaas ay soo dhacday waxa la oranaya waa yahay hadii lagu dilay oo ninkaagi walaalo ku dilay dacwad miyaad gudbisay booliiska miyaad u sheegtay bal halka aan wax ka bilowno horta koow si aan ma aragto qofna loogu xadgudbin ma garanaysaa qofka victimka walaal waxba in loo sheego weeyaan laakiin qofkii isagiiyan waxba dhageysanayna haduu ku yiraahdo nabar baa la igu dhuftay de anigu haddaan doono intaan ma aragtay meel ku dhacay caloosh iyo qarxday operation stitches igu yaallo scar weyn igu yaallo ama nabar igu yaalaan oran karaya waxaan doono sheegan karaya taasina xaq u maleeyo qof walba inuu ku rumaysto waxa weeyaan marka hore inaad noqoto qof qowl leh oo wax laga maqli karaayo hadii aanad ahayn inaad cadeyn community u keento oo aad tiraahdid nabarkaas ay igu dhacay walaalo oo lagu yiraahdo muxuu haydan yaa kugu dhuftay oo lagu yiraahdo muxuu haydan bal horta aynu ka bilowno police station-ka aanu ku geyno oo dacwad aynu report garayno waa qofkan hadii uu nabarka inta le kugu dhuftay naftaadi waa khatar ku jirta
adduunkan horu maray anaa run idiin sheegay lama ogolo qof iska socdo intuu qof midig geliyo ku naashnaashaya adduunko iska marmaraayo lama ogola eedaysana haddaad taha laysku kaa jeebaynaya the level of the crime aad geysatay awgeed baa laysku kaa jeebaynaya lama ogola violence against women sharciyo badan baa laga dejiyay wararka dalalkan muxuu haydane horu maray lama ogolo qof mindi la iska geliyo lama ogolo qof la iska dhirbaaxo lama ogolo qof candhuuf lagu tufo lama ogolo qof maaragtay ilqaloocan lagu eego la hadido yaa hate crimes baa jira waxyaabo badan baa jira waxa weeye waxay ku fiicayba dalalkan reer galbeedka wax walba sharci bay kasoo dejiyeen waxa ugu fiicanay jecel yihiinna waxa weeyaan xaafadaha iyo reeraha islaamka inay kala dhuftaan naag tiri nin muslina ayaa gacan ii geystay walla inaan la eegin in laysku jibinaayo gaariga xaggiisa dambe immediately la dhigaayo marka anigu ma rumaysan karaayo dad badan sheekooyinka ay baraha bulshada la wareegayaan mana raba inaan beeniyo dad badan oo victim ah oo soo bixi doona waynu qarsanaa dad qarsada xumaantooda ayaynu nahay iyo dhibkooda waayo ceeb baynu ka baqanaa fadeexad baynu ka baqanaa ilaahay baynu aaminaa ilaahay baa hagaajinaya baynu raahnaa samir baa lagu odhanaya laakiin qof madaxa la kala jeexay lama odhanaayo muxuu haydeenay lama odhan karaayo muxuu haydeenay inta dhakhtar la geeyey ayaa hadhowna dhakhtarkii laga soo daayay gurigu iskaga nabad qaba maya halkan haddii nabar lagugu dhufto oo aad qariso oo dhakhtar lagu geeyo dhakhtarkaasi ku dhayaya ayaa muxuu haydeenay wacaya booliiska ku weydiinayo odhanaya siduu nabarkaasi kugu dhacay hadduu intaa in le ka shakiyuna abuse yahay intaa in laga ka shakiy iska ilow qof mindi la geliyay they know nabar kastoo qof biniaadmiga ku dhaca they know siduu qof ugu dhacay way darsaan waa shaqadooda weeyaan daily bay dadka qodoba ku tolaan daily bay dadka xabad ka soo saareen daily bay dadka ma garanaysaa badbaadiya noloshooda ma garateen markaa qofka nabar ku dhaco booliiska iyaga wacaayaba muxuu haydeenay dhakhtarka adigoo lagu dhayaayo oo lagu daaweynaayo ayaa booliiska loo wacaya booliiskaa imanaya wuu ku waraysanaya haddaad qariso waa lasoo baadhaya magacaagii hore adduunkaagii cid hore miya ku maagtay adigu miyaa tahay qof nabar nafteeda u geysan karaysa adiga maskaxdaada ma degan tahay adaaba dacwad lagugu furaya oo la odhanaya qoftani dad self harm sameeya baa jira oo iyagu isdila markay ciishoodaan mindi isku jarjara dhulalkan reer galbeedka xanuunada dimirka noocyo badan bay leeyihiin oo aanu islaamku lahaan jirin imikaasi ay yeesheen dad fara badan inta weydinka arkaaya mushkiladaha ka jira communityga dad baa jira mindiyo isku qalqala dad baa jira mindi isgelinaya dad baa jira wax la yidhahdo split personality qaba oo maaragta isla sheekaysanaya marba weji kuula imanaya wejiga imika kuula yimaadaan ee aad wax ku wada isku tidhaahdeen ku kalo cusub kuula iman markaas odhanaysaa qofkan maxaa ka siiya cuudu billahi min ashaytaan rajiim split personality baa la yidhahda qaar baa split personality waa qof laba shakhsiyadood leh qaar baa jira haddaba dhowr iyo 30 shakhsiyadood maskaxdooda ka guuxaysa oo marba weji kuula imanaya ka waran haddana waa qof nool oo dhan oo socda oo dhar xidhanaya labisanaya ishagaanu ogeyn oo dhan ee cuudu billahi maxaa meeshan keenay Soomaalidu waa cuduradaasi yeelatay waayo waxaasna maxay tahay waa iimaan la'aanta iskama kala masaxaya get used to it saaxib barnaamijku socdaaya asma maxay markaa waxaa jira dad iyagu maaragtay nabar isu geysta self harm wax la yiraahdo dad baa jira iyagu ma aragtay qarsada nabaradooda dawladaha la joogaan reer galbeedka maaha dawlado la siri karaayo maaha dawlado ku oranay hada dhakhtarka Hargeysa kala dadka ka Muqdisho hada tiraado waa ku fayay dhay nabar ay soo gaaray balasar baa lagu dhajinay waa lagu dhayada waa lagu marinaya hadii aad ma aragtay madax guursantaa waa lagu jiifinaya waa lagu daweynaya inta kama sii gudbayaan laakiin dalalka reer galbeedka they like inay dadka ogaadaan exactly waxa ku dhacay qofka dhintay amar alle u dhintay Soomaaliya ay idin sheegaya ayaa la qalaya sainta loo kala dilaacay halka ilaa halka inta lagu kala dilaac sida lagu kala fujiyo ayaa organkaaga jirka kugu jiro dhan wadnahaaga sababkaaga beerkaaga keliyahaaga everything inta uu ku jirto dhan sida lagu soo kala dhigo ayaa mid walba saamba laga qaadaya dhiig baa laga qaadaya adigoo meyd ah maskaxdaada la jeexaya la miisaamaya xitaa waxaad mooysaa dadka in la iska aaso waxyaabaha sheekooyinka Soomaalida ay la imanayaan publicada aniga qaar badan baan rumaysanin ilaa imika aad baan kaaga qaaday marwa soo dhawow yaa dad badan oo qarsadaana way jiraan laakiin baaritaano badan baa dadka lagu sameeyaa ujeedadan ka danlay waxa way baaritaan badan baa lagu sameeyaa qofka hadii isagu isdhaawacay hadii la dhaawacay haduu qarinaayo haduu been sheegaayo si kasta waa loo soo baaraya waana laga daba tagayaa lamana ogolo qof maaragtay nabar loo geysto
qof mindi la geliye baad sheegtay qof qaniinyo lagu dhajiyaad sheegtay qof madaxa la kala baray baad sheegtay qof la kufsaday baad sheegtay waxa weeyaan waxay leeyihiin system dhan oo wax ka qabanaya inta kaliya ku fiicay dalka reer galbeedka waa inta ay kaga fiicay dalka islaamka dhibaatadoodana way leeyihiin kala ereyga familiyaday leeyihiin ya qofkii powerkiisa abuse garaynaya naagta ninkeeda bacda madow banaanka u dhigaysa ee maaragtay been ka sheegaysa taageero badan bay ku helaysaa dalka reer galbeedka waayo aad bay dumarka u maqlaan oo voice siiyaan qaar badanna voicekooda soomaalidu way abuse gareeyaan beenna maaha taasi waa la ogyahay way abuse gareeyaan voicekooda raggooday wanjalaan caruurtooday wanjalaan ehelkooday wanjalaan allahu aclam dhibaatooyin badan bay reerahooda ku hayaan dad badan qofka xun lagama baxsan karay marnaba qofkii wanaagsanaaye dhibaata soo gaadhay wax loo qaban lahaana ma garanaysaa kuwaasi ayaa ka galaafanaya jaaniskii wax loogu qaban lahaa waxay noqotay mushkiladii soomaaliyeed ee hor taallaa imika mindidii labada afood lahayd bal mindi laba af le dhinacuun qabo xagee baad ka qaban xagee baad ka rogi mindidii labada af lahayd qofkii inaad tidhahdid been baad sheegaysaana ma rabtid inaad tidhaahdid oo dadkii kale dhibaatadu haysatay qarsanayay ayaa doonaysaa inay soo baxaan oo ay voice yeeshaan oo si fiican wax loogu sheego oo la caawiyo kii communityga dhibaato ku hayeyna waxaad doonaysaa inaad ka qabatid ya markaa soomaali badan oo imika ma aragtay communityga naceebayo dhaleeceey waxay noqdeen mindida labada afle ya heer waxay imika gaadheen waxay doonaan sameeyaan xorriyadii ay abuse gareeyaan freedom of speechka ay abuse gareeyaan dhaqankii ay abuse gareeyaan communitygooda ay abuse gareeyaan ehelkooda ay abuse gareeyaan dadkii wax la qaban lahaa ay abuse gareeyaan ama kuwii wax la qabtay inay ma aragtay kalsoonidoodii abuse gareeyaan naago miyaad aragtay soo taagan oo le communitygan waxu qabanaynaa intay soo labistaan ilaahay hortiba wax kuugu qabanayaa sidan iyo sidan haddana iyagii abuse garaynaya oo dhibaaya oo maskaxda ka qabsanayo qof dhiban ama dhiman ama dhibaataysan kow horta waxaan doonayaa inaan halkan uga sheego hablaha maaragtay dhibanayaasha ah anigoo aan ka baxaynin oo caadifiyad aanay qaadin ciddii doonaysa inay ka qayb gasho debatekani waad soo qabsan karaysaan facebooka telefoonkana uu idiin furan yahay khadku waxaan doonaya inaan ku noqdo ajandihii aan idiin soo dhigay maanta waxaan idhi fake extremist kama taqaanaan soomaalida yaa ka mid ah cargarta naagaha calooshooda ku shaqaysta soomaalida dhibaatadooda ka faa'iidaysta calooshooda shaqaystayaasha yaa ka mid ah ayaan xirsi bugaag bay qortay islaamka ay caayayso because she's not valid haddaanay islaam caayaynin haddaanay beenka abuuraynin haddaanay kan iyo keer ayuu ninka islaamka yahay aanay lahayn haddaanay lahayn naagaha islaamka oo dhan waa jaahiliin haddaanay lahayn islaamka naagaha iyo islaam oo dhan ka ilaaliya yurub iyo maraykan waxa weeye cudun iyo karsar bedelaya dhaqanka ee reer galbeedka ya ma waxay u danaynaysaa muxuu ahaydna qof Soomaaliyeed waa maya ma waxay u danaynaysaa qof islaam waa maya ma waxay u danaynaysaa qof jirkeed ama waa maya waxa way bugaag iyo been bay qoraysaa si ay valid u noqoto dalkii ay joogtay baa laga soo eriyay nobody ayay tahay waa la nacay meelahaas looga yeerin jiray qaar lacag inta yar siiyaan yiraahdo islaamka yar ay kuwiina way ka baxeen maalin walba mowduuc cusub bay doonaysaa inay daba qabsato naagaha calooshooda shaqaystayaasha ee extremistka Somali feminist extremist kan u bixiyo wax kamid ah ayaan xirsi Mona Walter iyo qaar badan oo undercover isqariya aynu naqaano oo ku soo wada xiran xijaabkaas ya ama kristaan ha ahaadaan ama islaam ha ahaadaan ama tuuga ha ahaadaan ama balaayo kale ha ahaadaane mushkiladana waxa weeyaan inaga cod siinayna inagaan u fiirsanaynin qofka dad inta in laga isdhaafo ka muxuu ahaydee inay dareento waxa weey inaad ka fiirsato laakiin qofka intelligent-ka ah wajigan ma tusayaan yay tusayaan dadka masaakiinta la raadsanaya dadka aan waxba qabsan karin baa la raadsanaya dadka aan waxba fahmin baa la raadsanaya been baa loo sheegaya walaala macaanay baa la oranaya aboowi xabiibkaygii baa la oranaya inankaygii geesiga ahaa baa la oranaya waad ogtihiin baraha bulshada intaas laga qaraabta ya halka intay soo istaagto oran maysa anigu diinba ma haystee waxaan doonayaa maxina dadkayga caawiyo Soomaalina waanahay de waxa weeyaan hadda xitaa ayna sidaa sheeganina ay maaragtay community-geedu u ololeyso oo ay mashaariic u
fuliso u hurgeliso ay caawiso tagta meel kasta waxa weeyaan de waa qofka communitygiisa contribution maaragtay ku darsanaya dhibaato male gaalaan maalin kasta wax la cunaa soomaalina waan ahay kuwan cafeteriada wax kula cunaa waxa weeyaan ma odhan kara gaalo iyagu ahlul kitaab bay sheegtaane yahuudi waxa leeyihin kristaan iyo qaar diinba haysaninba cuntaan wada cunnaa can I ask you question bay igu yidhaahdaan maxay dadkiinu sidan u yidhaahdaan maxay dadkiinu sidan u sameeyaan ku idhaahdaa mararka qaarkood su-aalaha i weydiinaya waa su-aalo dhaqanka carbeed ku saabsan maxaa niqaabka wejiga u xidhaan dumarku waxaan ku idhahda waa dhaqan carbeed ya xitaa muxuu ahayde inay carabta kristaanka qaarkood ayaa niqaab wejiga xidha waa inaad lahaataa dood wadaag waa in lagu soo approach garayn kara waa inaad jaarkaaga salaantaa ya maaha inaynu iska dhigno community xidhxidhan haddana community indhahooda frayin inaynu noqono weeyaan cadowga kugu jira kaasaa ka daran cadowga fog ee aad iska ilaalinaysid cadowga islaamka nacab hadda eeg ya ee soomaaliga ah ee dhaqan gadoonka ku wada dadkaaga iyo dalkaaga kaas ayaa ka xanuun badan ka shisheeye way ka shisheeyad haddaanad adigu visa siinin you can simply ma garanaysaa refuse inuu xitaa gurigaaga soo boqdo albaabkaaga ka furmaysid ka waranta jaarkaaga ee xijaabka xidhan ee aan islaamkaba ahayn ilmaha kaa fadaraynaysa that is the problem anigu aan haysta ta odhanaysa muxuu leeyahay Somali community waxa weeye useless ya islaamku wuxuu xaqiraa muxuu haydeenay dumarka Soomaaliyeed ee beenalayda ah ee aan xitaa diinteeda kristaanka ixtiraamka u hayso muxuu ahaydeen diinta sheeganaysa ma odhan karayo diinta kristaanka qofka sida fiican u garanaya uu ixtiraamaa diinta islaamka arki maysid islaan kristaan oo intay social media soo istaagto lugaheeda kala qabqabanaysa oo waxaynu qaarkood ku aragnay samaynaysa communitygeeda caaysa trash garaynaysa ma arkaysid sababtu maxay tahay ammaan baad ka helaysaa jaar baad tihiin ta ugu daranay samaysaa waxa weeyaan islaanta jaarkaaga ee kristaanka inay kugu tiraahdo intay kugu soo qaqaraacdo beritoole kiniisadii baanu leenahay kaalayo nala soo tuko od ku tiraahdo ma raalli noqo muslim baan ahay bartaasay kaa maraysaa oh really thank you so much for telling me I didn't know ama intay qaar meeshan marayaan kugu soo qarqaraacaan ay kugu yidhaahdaan waxbaanu wacdiyeynaayo diin baanu fidinaynaa albaabka naga furo please qaado bible-kan ood ku tiraahdo maya walaal laakiin qaar badan maxay sameeyeen bilaa iimaan oo Soomaaliya dhinacna islaamnimo ka sheeganayaan dhinacna muxuu ahaydeen been kristaana bay ka yihiin oo kiniisadaha dawarsanayaan ilaah bay iyaga wada sheegay oo qaar aan garanay magaaladeena la degan can you believe it that is so sad qofku waa inuu millad iyo mabda yeeshaa anigtaas ay ka dhaadhacsan millad iyo mabda aad ku dhimato yeela mar walba haddaad tahay xitaa qof aan waxba haysanin ya millad iyo mabda yeelo lagugu soo hagaago taasaan anigu markaa ku raacsana markaa dumarka qowlaysatada ah ee undercover dangerous extremist ka waxaan leeyahay digniin ku socota waxa weeyaan ka baxa qashinkaad ku jirtaan oo cadaysta waxa aad tihiin la yaab male qof hadduu yidhaahdo kristaan baan ahay uu diintaasi barto sababta uga baxay diinta islaamkana isagaa og allaha kusoo hadayaanu leenahay lakum diinakum waliya diina baanu leenahay walaalaynu ahaanaanu leenahay laakiin ha ii soo dhaafin reerkayga ha i caayin intaad meel ii soo fadhiisato dadka mooday xoriitul qowlka inay waxay doonaan kaga hadli karaan muxuu ahayde inay dalkay doonaan ha joogaane islaam cayga waxaan idin leeyahay walaalaya raxma idiin sheegaa 30 dal oo muxuu ahaydeen international ayaa isku raacay inay maaragtay oo sharciyo badan oo adag ka soo dejiyay muxuu ahaydeen cayta diinta islaamka iyo diinaha oo dhan mid sanam wata haddaad sanamkiisa ka caydid ood kaga horkaadid sanamkiisa uu meel u dhistay temple bay yidhaahdaan temple ayay yidhaahdaan aad kaga horkaadid sidood ka jajabisid sharuuci baad jirta ku qabanaysa oo ku xidhaysa macdalla muxuu ahaydeen diinta islaamka ee udgoon marka waxaan leeyahay ka waantoob waxaanaad ku socotaan caruur baad leedihiin ehel baad leedihiin naxariis iyo muxuu ahaydane baqasho iyo ixtiraamtoona ma lihidin laakiin allihiina ay idin soo hadayaanu leenahay laakiin haddaydan waxba ka baqanaynin waxa weeye qof kastoo is yidhaahdo western countrieskaad joogtaa oo aad ma aragtay kaga badbaadaysaa western countrieskaasi ma ogolo laftarkoodu in iyagoo ku siiyey guri ku siiyey sharci nabad ku siiyey ku soo dhaweeyey ma garanaysaa lacag ku siiyey caafimaad ku siiyey in aad dadka kale ee communityga kale intaa in leg protection ay u ogol yihiin iyo xuquuq aad ku wada ku tumatid lama ogola
anigayga lama ogola inaan qof maaragtay xuquuqdiisa ku tunto adigana laguma ogola inaan qof xuquuqdiisa ku timatid marka haddaad moodaysa inay kuu sahlan tahay oo aan maaragtay aan lagugu qabsan karaynin waxaan leey ka waanto dadka waxaasi ku jira because waxa weeyaan dad baa jira wallaahi billahi ka damqanayo ka daba tagaaya oo maaragtay aan ogolayn in communityga la caayo Soomaaliyeed oo aan ogolayn in maaragtay hooyo Soomaaliyeed ay niyad xumaato hooyooyin ooya soo galiya socialka maalin kasta dumarkan ma wax loo sheega ma yaa la qabtana yaa dhaheen aan wax idin sheega anaga yaa heroeskayga ah heroeskayga waxa weeyaan Sheekh Saciid Raage iyo muxuu ahaydana sheekhi kale muxuu magaciisa Allah daayay Sheekh Dirib ya anaga kuwaasaan no heroes kuwaasaan no geesiyaal kuwaasaan diinta ka hadla kuwaasaan xuquuqdayada aanu ka raadsan haddaanu dumar islaameed nahay ya intayada waalana Allahna soo hadeeyaanu leenahay inta iimaankaygu daciifka yahay maalintu daciifkayna Allah noo siyaadiyaanu leenahay cidna kalama tashanayno adigana xukuma weydiinayno lunsanay hadad lunsan tahay waxaan kugu yiri walaalay inta social media iska xidid fadhiisa meel horta bal saddexda qolo wala akhriso iyo ayatul kursiga balaaya ku saaranay waxaan olol kale idin wada saaran bismillahir rahmanir rahim ya dadku meel kale ka ololaa qofkaas meel kale ka ololaya baan maqli jiray wala waa tan oo kale qofku markuu meel kale ka ololaya waa tan oo kale tan labaad waxa weeyaan in doonayna ka hadlo intaanan ka bixin ma sha Allah dumar badan oo wanaagsan activist badalka muxuu haydeenay u noolaa oo la dilay oo ma aragtay gacanka xaq darin disha Allah muxuu haydeenay jannatul firdaws ka waraabiyo hodanna leeyahay Dr. Hawa Almas iyo qaar kale oo fara badan ma sha Allah okay ajandaha khaaska dumarka qaarkood ay wataan maxaa kamid ah hana waad mahadsantay walaalo oo ku salaamay adigana waxna eegaya asxaabta fariimaha soo qoreen waan idin sheegay maanta barnaamijkan waa xasaasi qofka ka baqaya inuu ka qayb qaato waa okay qofka aan maaragtay fahansanayn waa okay laba qof oo si fiican ii fahma oo fariintayda dadka kala gaarsiiya aniga igu filan viewers anu kuma raadinayo iyo wax kale dadka yiraahdo isbedel doon baanu nahay oo xuquuqda dumarkaanu raadinaynaa qaar badan oo waxba dumarka u qabanin waxna u qaban kareenin cilmigeeda lahayn garashadeeda lahayn garowcashadeeda lahayn fahankeeda lahayn niyadeeda lahayn inama al-a'malu bin-niyyat yidi nabi Muhammad alayhi salatu wassalam wa inama likulli imri'in ma nawa qof walba amal waxa uu doonayo waa niyada buu yiri ya qof walba wuxuu helaa ya amal kasta waa niyada buu yiri qof kasta wuxuu doonayaa wuxuu niyadiisa ku hayo ka helaa ujeedad macnaheedu waxa weeyaan hadaa doonayso dadkaaga in caawiso ay ka dhab tahay hadii aad doonayso dadkaaga in caawiyaan ay ka dhab tahay ilaahay ba qalbigan ugu fadhiya khalad uun baad gali meel un wax ka soo bixi wuxun baa ka khaldami laba looma geen karaayo marka waxaan leeyahay dumarka doonaya in si fiican loo caawiyo hooyooyinka dhiban hooyooyinka aan fahansaneen xitaa abuse-ka lagu hayo ya kuwa xun meelaha ii yaalaan waa calooshoodu shaqaystayaal marna iyagoo kalinkaloonaya soo galayaan social media marna iyagoo ooyaya marna iyagoo qoslaaya marna iyagoo qayliyaaya marna iyagoo cabaadaya marna iyagoo xaaray marna iyagoo dhuusay marna iyagoo lugta taagay big wacdahaya marka de maalinba waji waxa weeyaan nin waalanow ma garanaysaa berina maxaad keeni biyo kale weeyaan ma ogin kuwaanu lama hadli karaayo waxaan doonayaa dadka maasha Allah social workerada ah iyo dadka ma aragtay caafimaadka madaxa bartay inanba fariin u diroon ku yiri waxay baratay psychologist iyo waxaasi waxaan qarxinayaa maanta mid baan fariin u diray oo nirnaahay waxaan doonayaa halkan aad la soo fadhiisatido badadkeena dumarkeena xanuunsanaya balaad ma aragtay xusheegtay marka waxa isla arimaha dumarka iyo ka warayso oo ma aragtay xooga yar barnaamij ka soo diyaari inantii fariinta u geysay oo aan ku kalsoonaa aad saaxiib u ahaayeen waxay igu tiri interested kuma aha oo aan qosla ma waxay doonaysaa lacag siisi inantii baan ayaga markaas aan ku yiri de lacag ma siiya waayahay ma soo fadhiisanaysaa dan lacag siiyo ya ana waxaan isla community-geeda ha barto oo maaragtay contribution ha siiso oo maaragtay wax u sheegto anagu waqtigii volunteer garaynayna ya waa aniga halkan fadhiya yaa lacag ugu siinaya nobody haddaan caytamaan qof ku tufaayo 5,000 baa share garayn lahaa so waxaan idhi haddaan lacag siin lahaa malaha way iman lahayd markaasay ku tiri saan ku never mind I'm not even interested bas waxaan moodaya qof aan isku mabda nahay kun qof oo naagooda cadaana baan la soo hadli karayaa in soo fariisin karayaa
laakiin anigu waxaan ka doorbiday inaan Soomaaliyeed oo community-na ku jirto oo shaqada gacanta ku haysa inay dadkeena af Soomaali kula hadasho ayaan ka jeclaan lahaa marka dadka qaarkood ee ma aragtay baahida ka gasha waa taas oo kale wala noqda waxaan doonayaa inaan ka hadla hablaha marka dulmanayaasha ah ee dhibaatada haysato qofkii dhibaato haysato hablahan asxaabna oo kasta markayga xitaa ah qaar baan muxuu ahaydeenay aad u saaxiibnay oo marka qaarkood iska soo waca iska waraysta inaan bay maalin ku dhacday anigoo qayliyo ooyaan halkan soo galay Facebook iminka intii ay soo darsatay sheekada lama socdo laakiin intii hore maalinta I was a hot mess aan soo galaan oo qayliyaaya Yurub baa laga keenay inaan tabaskiinad bay ahayd inaan baa soo guursaday reerkooda keenay halkani ninkii soo guursaday reerkooda la deganay inantu iskuul may galin liisankeedii muxuu ahaydeenay ay kii yaraaye hoose haysatay xitaa isma drive garayn karayso ilmaha xitaa iskuul ma geysan karayso dhibaato adduun oo dhan green cardkeedii xitaa wuu kaga fadhiistay ninku wuu dhibay inanti rafaad guriga dhexdiisa saas iskugu daba wareegtay maalinta markaan qayliyaayeen waraaro dilaacsanaa waa ila hadlaysayo albaabku ninku dabcan ku soo jibiyo albaabka ka xidhata waxay ogaatay immigration-kay wacday qof baa u turjumayo immigration-kay wacday waxay ogaatay inaanu sharcigeedii xitaa ma aragtay u xareynin oo uu kala dhiman yahay halkii uu marayo sharcigeedu xitaa waxay ogaatay inaanu meeshiiba maraynin markay isdileen albaabkay ka soo xidhatay waan muraaro dilaacay maalinta oohin halkan aan soo galay qaylo balaayo markaasaan si kasta ula hadlay shelter baan kuu dirayaa anaa kaa bixinaya Uberka ka bax guriga ciyaalka meel nabad ha lagu geeyo marka hablaha dhibaatada haysato long story short waxaan ka hadlayaa hablaha dhibaatada haysato garab iyo hiil baad leedin haddaad garanaysaan cid hagaagsan oo toosan wax idiin sheegta tii nabar lagu dhuftay please first of all dhakhtarka tag oo ma aragtay u sheeg dhakhtarka inuu ninkani ku dilay record ka dhig waayo waxa weeyaan ma joojinayo abuse-ku maaha keliyaata محمد قعان ليس صار مركو هلا variable بكو بلاب ما أي أفلقات بكو بلاب ما ريحتان بكو بلاب ما financial abuse بالو قصمينا العقدة لقات كوريا لقا إلى علينا إن أنت العقدة كإلى علينا ترين كاس abuse كون نوعية فربديه ما قرأت ناقي ساني كاغا فائدة السنين كردبتا فيديو كادوبتا social media هذا صور دقتا lacag kugu tuugsato kugu aruursato dollar ku siin weyda ku fadeexadaysa ninkaaga kugu dirta oo xitaa hablaha qaarkood la gaarsiiyay heer caruurahooda laga qaado inanta gacan nin saara ama sodohdeed disha ama ma aragtay financial abuse lagu hayo verbal abuse mental abuse noocyo badan buu abuse ku leeyahay maaha kaliya in qof gacan la saaro marka ugu horeysa magaaladaada Google-ka gal raadi meelaha muxuu ahaydana shelterada women shelter kala yiraahdo women shelter haddii kale aniga ii soo dir fariin anaa kuu soo diray women shelterka ugu horeeya oo gobolkaaga magaaladaada any dal aad joogto dalalka aan luqadda af ingiriisiga ku hadlin anigu garan maayo laakiinse waan raadin karaynaa muxuu ahaydeenay women shelter baa lagu raadinayaa halkaasaa horta ma aragta haddii khatar aad zaa'ida ku jirtid weeyaan wax waa lagu qaban karaya habluhu maxay u baahan yihiin qofta dhiban waxay u baahan tahay safety nabad meel nabad ah oo ay degto shelter ah xitaa guri walaasheeda hadday tagto guri inaadeerteeda guri saaxiibadeeda meel nabad ah oo ay meesha kaga badbaado guriga ay joogto markaas inta xaaladdu kala qaboobayso intay wax degayaan way u baahan tahay qof caawiya waxay kale u baahan tahay financial support inantaas dumaro ku dadaalay inaad ma aragtay financial support haysataan gurigaaga dhexdiisa maxay dadkan la wada waasheen waxa way naagan dollar weligeed shaqaysanin baa doonaysa inay Soomaali alla ku dirto muxuu ahaydeen malaayiin ayadi shaqaysan weyday malaayiin ayadi shaqaysan weyday doonaysa inay Soomaali alla ku dirsho oo ku xaqxaqto meelaa u dhiibatay naada sadaqadu xoolo dirqi maaha sadaqada wixii Ilaahay ka siiyo ummadda islaamka ah majority-ga waliba islaamka ah inta kale oo Ilaahay kaaga soo ruuxo ummadda kale ee cadaanka wax lagu weydiinayo ee ma garanaysa food stamp la anaga food stamp la yiraahdo kaariyaro cunto kaariyaro caafimaad guri yaro lagu siiyad ku asturnaato waa xoolo dirqay luqmad xajraka lagu taagan yahay dadka badankooda iska ilaaliyaan laakiin hooyada iyo ilmaha u baahan iyo reerka soo degayo u baahan laga keenay xiro qaxooti ama imika soo galay ninku waxa yar u shaqeynay inay ku filnayn waa loogu kaabaa waa kaabe ama waa kabid waxa loo yaqaano loogu kabaayo reerkaasi inta ay dakhliga si ay ma aragtay cagahooda iskugu taagaan oo Ilaahay wax u sahlo
dalkan markay dadku yimaadaan waa inay ku dadaalaan dalalkan dibadaha waa inay ku dadaalaan inay maaragtay horta si fiican u degaan udegidii maaha inaad comfortable noqotood ka warwarta dah yaro xun oo urayad meel ku xidhiyo sariir xun oo ballaadhan oo kolba sawir xun intaad kasoo qaadid baraha bulshada iskaga faantaan anaa tan ii talaanay tan who cares waxaasi caafimaadkaagii maskaxdaada xolba ka weynay ku dadaal inaad wax barato haddaad karayso hooyo uguba haddaad tahay haddii ilmaha lagaa yarahayn karaayo haddii kalese ku shaqaysa gurigaaga dhexdeedoo naagiska dhigo dhexda xidho feminism waa intaa keliyaata beenyaan laysku sheegin extremekan iyo huuhaadan iyo buuqan ay dumarkan ila ordayaan ka hadha badaha hadday wax ku heleen iyaga wax ku heli lahaa horumar haddii lagu helay iyagaa ku heli lahaa may ku helaan horumar ku helaan may ku helaan horumar intay ku helaan may meel ku maraan oy diyaaradaha adduunka ku raacaan adigu waad goosan karaysaa walaala tigidhkaa yara soomaali oo dhan ay diyaaradda raacdo yaa laakiin hadday horumar ku helayaan huuhaa diyaarada bribate ay goosan lahaayeen iyagu leeyihiin iyo eeriboordho gaara ka kaco halkaasi ka gooshi lahaayeen marka in waxba been laysku sheegin sariirta yar lasoo goglaayo laysku sawirayo daahan yara xuna u eg waxaa badaha ka bax maskaxdeena aynu furna dumar haddaynu nahay hooyo waxa weeye hooygii communityga soomaaliyeed waxay u baahan tahay ma garanaysaa inay maaragtay reerkeeda gunta kasoo toloto si yaroo tartiiba iyadoo gurigeeda fadhida xidno marin karaysaa casalla muxuu yahay youtube-kaasad ka daawan karaysaa makeupkan youtube-kaad ka daawan karaysaa gal somali fashionista videos channelkayga 100 video baa ku jira daawo makeupka sida loo mariyo habeenka aroos jiro $35 baa loogu mariyaa gabadha haddaan laashis lagugu xidhin xiribaha yarara xunxunka ah haddaan lagugu xidhin $35 weeyaan yaa haddaad rabto kooraskar inaad qaadatid oo isku dhammaystiranna aniga iga soo register garayso you can because macalimad qurxineed baan ahay laysan baanan u haystaa been lama sheego yaa dad badan baa meelinta iska soo fadhiistaan waxay doonaan ku hadlaan this is my hobby waxaanaan samaynaya imika aan ka hadlaayo barnaamijyadan this is my hobby ya marka waxa weeyaan waxyaabo badan baad samayn karaysaa horumar wax qof walba gacantiisu biyo kaga dharga gacantaada lagu haraad baxa wax yaroo dawladu ku siisay kugu soo dhaweysay isku halayn malaha maaha wax dhowtoola ku dhisi doona waxa weeye tallaabo yarood qaadaysido talabaad inaad ka daba qaada ay tahay barta haddaad fadhiisto waa dhibaato tan labaad reeraha 15 sannadood ka badan deganaa dalalkan qurbaha wixii intaa ka dambeyn laga guuro weeyaan maxaa meeshan lala sii fadhiyaya maxaa yaala qofkii leh meel uu uga guuri karaayo inuu ka guuro weeyo weyninkii maqlaayay abwaanka ya marka gabadha dhibaatadu haysato waxay u baahan tahay marka hore meel safety inay tagto guri inaadeerkeed walaalkeed saaxiibadeed dawladdu meelaha woman shelterkeed dumarka ma aragtay dhibaatada loo geysto ay kaga badbaado meel bay tegi karaysaa waxay u baahan tahay financial support haddii ninkaaga ku qabo oo aad caafimaad qabtood ladan tahay de waa inaad gacanta wax ku haysataa adigu iska leedahay waayo berritole dhibaataa iman karaysa dahab yar haddaad haysato xitaa dheg baad iibsan karaysaa gaaru hadduu kaa banjaro xitaa yaa independence waxyaabahaasaa lagu gaaraa laguma gaaro ma garanaysaa isku hadlayn qof bini aadmiya yaa haddii ma aragtay lagu dhibo nabar lagugu dhuftay walaalo oo lagu dhaawacay oo post partum depression wax la yidhaahdo dumarka badankooda soomaalida xanuunada dimarka iyo maskaxda waxaa u keena ilmo markay dhalaan caruurtana waa isku xixijinaa ilmo markay dhalaan waxaa jira nooc min depression la yidhaahdo postpartum ilmo markay dhalaan kimikadii jirkooda isbedela timaha ka daata ma seexdaan soo jeedkaa ku bata way dhibaatoodaan chemicalka jirkooda isbedelaa hurdadii baa ka yaraata nafaqadii everything mas-uuliyad baa wali laga sugaya ilmihii iyo dabada haysta ayna xitaa jaanis helen ay soo maydhato waa la isku xigsiinaya maasha allah laakiin ayada ka go-antay hooyadaas postpartum kii hore ayaa kii kalena ka daba imanay marka waxaan leeyahay hooyooyinka iyo dumarkaasi anybody u baahan counseling inuu dhakhtar maskaxeed la tasho ceeb ma aha qof kastee ku dhacdaa haddaad ciishootay haddii dhibaato kugu soo gaadhay dalkii haddii ninka ku dhibuu ku dilay haddii maaragtay wax kale kusoo gaadheen ha ka xumaanin dhakhtarkaaga wax kasta u sheeg ma seexdo waan fikir badanahay waan ooyaa runta u sheeg laakiin intaad mujtamaca soomaaliya lasoo dhex fadhiisato way kugu caayaan walaalo anaa runta kuu sheegaya yaa ciirtada dhamaad ceydayada yaqaana waxba ka heli maysid hablo waxba ka heli maysaan marka ayaan la iskaga dayanin dhibaatadaas oo kale yaa counseling doono meel sheltera waa lagu caawinayaa waa lagu raadinaya cid kula buuxisa waraaqaha
muxuu haydeenay wax lagu siin karayaa kaadh cunto kaadh caafimaad dowladahana intaasi ku fiican yihiin inta kale ku xun yihiin waxa weeyaan yaa oo la doonaya dhexda inaad xiratid inaanay ninkaa kaasii fogaynin hadda eeg yaa hadduu de fare laga qaadihii ku dilayo sarkhaan yahay waaba inaad de kaba baxdaaba baddaasi haddaad soo xaraysta mar labaad waxa weeye waaba dhibaato laguna la yaabi maayo yaa dumarka la abuse gareeyey waxaa la yidhi between 6 to 10 times yaa ayay ma aragtay inta udhexaysa intaasoo aflagaadu dhibaato markuu ninka u geysto 5 ilaa 10 inta udhexayso dhibaato markuu gaarsiiyo ayay naagta ama koobu kaga siiyaa ama maaragtay kartiba yeelataa way ka carartaa ninkaas marka hala yaabin haddaad aragtaan inan ninkeeda ku noqoto laakiin waxaan rajaynayaa inuu ilaahay qalbigeena dhagax inooga dhigo inuu noqono dumar go-aan leh biliis hablo badan oo la dilayna way jiraan oo inan california ninkeeda ku dilay baa jira uu abuser ahaa xuno bastera oo uu maaragtay kow kaga siiyey oo mar walba soo dudu qaraaco reerkooda ku celin jireen biliis yaan lagu celinin hablahaasi raggaasi maaragtay dhagarqabayaasha ee doonaya dumarka qaarkood inay dilaan yaa communitygeedana support bay uga baahan tahay laakiin supportka uga baahan tahay maaha walaal ciyaala suuq walbo Facebook soo fadhiisanaya iyo YouTube communityga u baahan tahay naagtu inay isku xeerto waxa weeyaan xitaa aabaha dhiban naagta kaliya tan maaha xitaa aabaha dhiban waxa weeyaan dadka inta ugu garashada wanaagsan ee ugu garoocashada wanaagsan garashada wanaagsan waxa weeya maaha adeerkaaga edabta daran leh maaha abtigaaga dhiblaaha waxa ahe naagtiisa dili jiray waxa weeyaan muxuu ahaydane walaalka waxa weeyaan walaashaada maaragtay maskaxda leh ee ugu degan reerka hooyada aabaha dadka way dadka ku xilqarinaya sheekha masaajidka dadka ilaahay xigmada siiyo dadkaasaa loo baahan yahay inaan la tashano Soomaali ana runta idin sheegaya wax walba la soo fadhiisanina Facebook kuma xil qarinayaan ayaa kuwaalay mariha ka sii tuuraya imika maalintii dhawey toole inanta ka hadhin la yiraahdo ay sida degdeg ay soo qabtay anigoo sii socda labaan filan ay soo qabanaysa mar hore request ka u dirayo markaas anigoo halkaas sii lugaynayo iska sii socdo muraayad weyn xidhan oo kulul oo xijaab xidhan ayaa ay iga qabatay hello waad ku jirtaa wade ba maxaad samayn inanta musliman ma aha la igu yiri danagta ka hadhin la yiraahdo barnaamij waan ka qayb galay aragtidaydan ka dhiibtay ana bay caayay naagahi dhar khaldan bay xidhantay anigoo de socdo lugaynayso samalhaadsano cidii daawanaysay yaa dhar khaldan bay xidhan tahay balaayada na baruurta iska ridna balaaya la idin ku ridiyo baruurihiina baruurahayagasaan sidanaynaa kulaylkaygana anaa ugu talagalnay saxad garteen maaha laakiin markii dambe aan ka caawaday barnaamijkaas markii hore si fiican buu socday aragtidayda waan ka dhiibtay markii dambena naago gaalaa baa soo gelisay yaa oo diinta islaamka caayayay oo de maaragtay markii dambena ay soo qabo baan ku yidhiyo waxay tiri qofan mar soo qabtay mar dad ma soo qaban marka mar baan doonayaan si fiican ula dooda gabadhaas ka hadhin la yiraahdo ka hadhin diinta dumarka ku kacsan bay tahay horteeda aan ka oranayaa imika idinka idin sheegaya marka waxaan leeyahay iyadii hablaha kale ee aan xitaa qaarkood diinba haysanin iyo ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay please aynu isxushmayno lakum diinakum waliya diin laakiin haddaad cuqdad kale iyo balaayo kale qabtaan iyo nabar iyo naxdin kale kala dul taga islaamka iyo udgoonkiisa anagu idinma caayayno idinma ceebaynayno idinma dhibayno ha noo soo dhaafina caruurtayda ha noo soo dhaafina muxuu haydanay dumarkayga ama ha noo waalnaadaan qaarkood ama ha noo miir qabaan waxa weeye waxaan idin leenahay walaalayaal sidaan ugu daaya oo ha noqonina fungus ka baxay communityga Soomaaliyeed marka inantu supportka u baahan tahay dhibaatada qabta waxa weeyaan supportka communitygeeda inta fiican uma baahna qof kastiba maaragtay inuu sii waalo uu sii ceebayo uu sii fadeexadeeyo oo ladaad xuriyad bini'aadamnimana way u baahan tahay oo qofka hadduu xitaa xanuunsanayo de in yaro xuriyada waa in loo ogolaadaa ma garata yaa thank you Nimco xabibti marka aynu dadkeena ka ilaashano muxuu hayna dadka waalwaalan ee diinta maaragtay ka saaraya dhaqankooda baabi'inaya dan kale hayn caruuraheena la qaadanaya dan kale hayn hooyooyinkeena waalanaya dan kale hayn aabayaasha iyagoo ciil qaba dalkii u baxsanaya naagtaan hana baraata lagu leeyahay magaceeda anu shakhsiyan ma aqaano magac kale ku soo gali jirtay muxuu ahaydeenay YouTube-ka bari hore afro weyn bay lahaan jirtay afro ayay lahaan jirtay hana alla maxay ahayd
war sheekadii waad ilowseen afroogeeda baan xasuusto sheekadii way iga carari gaadhay ana ma garanaysaa imika hablo badan bay ku xidhmatay dad badan laakiin wallahi mujtamaca problemka badan ay u soo jiiday ayaaba imika ka badan muxuu ahaydeenay waxay u qabatayna anugu ma arkaayo oo dee toosan runtii waxa la yidhi guri ma degana gabadhu maaha muxuu ahayd qof dal ay degan tahay u jira maaha qof dhisan waxa weeye qof community iyo dadka daciifka ah weliba maaragtay maskaxda ka qabsata adduunka waxa ugu daran oo ugu xun qofkaaga daciifka kuu dhaafa moogta aniga naagta iga caqli badaysa ay turufaysaa dee waa geesiyad badan waa naag firi anaa doqon dacay dheera baan odhanaya waa inaad dee qofka u qirtaa moogta laakiin qofka kuu dhaafa qofkaaga daciifka ah waa qof aan waxba yahay ahayn weeyaan that's the problem thank you na makeupkan maanta dhan ba habluhu caayayeen ayaa dhaheen daawada abiin baa la cunaaye waa yara too much waa makeupkii aroosyada laakiin ku raaxaysta qofka kaa soo mara xagga qofkaaga daciifka waa qof aan jirin qofka xagga ilmahaaga kaa soo mara waa qof aan jirin laakiinse waa they pray yeah that's what we call it in this country qofka daciifka ah kuu soo dhaafaya waa qof og goldalooladaada maaragtay ilaashanaya oo rabo inuu kuu soo dhaafo qofkaaga jilicsan siiba ilmaha yar hooyada dhibaataysan gabadha bilaadiinta ah qofka maaragtay isku yara buuqsan qofka maaragtay yara mashquulsan halkaas lagaaga soo wareegaya waxa la yidhi gabadha Hana Barata nin sheekha inan baa ka sheekeynay habeen dhaweytoole YouTube-kayga Somali Fashionista videos daawada videoyada saad maaragtay u dhagaysataan aragtida dadweynaha iyo maaragtay waxyaabaha inagula talinayaan waxba la kala faa'iideysta caawad aamusteen goor horaan idinku wada cabo dadku way seexdeen alla dee telefoonka caadiga iga soo wacaysan yaa iga day telefoonka caadiga oo WhatsApp-ka soo galaan idin idhi oh my god hold on war meel baan xalay toole markaan ka seexan waayay wallahi suga oh my god waryaarahan meel baan ka xidhay gabadhii Hana Barata waxay samaysay ma taqaanaa inanku wuxuu ka sheekeynay wuxuu yidhi nin wadaada ayaa reerkiisa ka taxaystay Yurubta oo dalkii geystay buu yidhi wadan wallahi waan iskareynay dad badan anyway muxuu ana xalay toole xidhay markaan ka seexan waayay waad wereerisayna waan xidhay qof baa ii sheegay yidhi meesha taabo dabadna waan idinku wada cab qushi barnaamijku si fiican bay noogu socdaa waxa la yidhi gabadhii Hana Barata inankii reerkiisii wuxuu geystay dalkii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii wuxuu yidhi qudhunkan qashaabiirkan kala baxaya waan geysanayaa dalkii caruurtaydii xaaskayga ilaa halkan u soo fadhiisataaye markana idin leedahay reer baan badbaadinaya ka daba tagayaa yaa dee waxyaaba badan baa qasan ilaan gabadha waxaan moodi jiray naag abuse lagu hayo ninka caruurta kala baxsadayo ka daba tagtay inay fundraising u samaysayo ay soo kaxaynaysa iyo xasan anigu moodi jiray maan dhagaysan jirinoo wallahi waa runteed xamda kalgacal markay odhan jirtay gabadhaasi qushin iyo qashaabiir bay ka sheekaysaa iyo wax walboo xun hablaan ku haysta xitaa Facebook igu jiro ay daawada oon is haysanay maalin dhaweyto oon ku yidhi wax walboo xun oo Soomaaliyeed maxaad soo dhigtaan oo diinta islaamka iyo quraanka ugu soo qortaan mid baa tiraahda waxaasi quraan ma ahay waa quraafaad waabanu isdilnayba balaayaan ku dhig waxaan ku naa wax walboo qashin oo qudhuna maxaad quraan u daba dhigtaa you can make your point adigoo quraan daba dhigaynin ya wax walboo xun maxaad quraan u daba dhigaysaa waayo xumaantii iyo quraankii kariimka baa laysku kaaga dhigaya laysku kaxanjeynaya oo isku mid lagaaga dhigaya si maskaxdaadii ula qabsato hadda eegya mental connection baa lagu sameynaya believe it waxa weeyaan way ajandahoodu wuu ka qoto dheer yahay inta aynu la soconno plans baa jira qorshayaal hoose ayaa jira plano badan oo dhigan baa jira xaggan ka soo abaar adigu sidan waxa wada yaacay waxaad moodaysaan inay yihiin ma aragtay dad iska socdo bilaa qorshe may dad baa u fakaraya dad qarsoon oo badan oo farabadan baa jira oo qarsoon ya ayaa jira oo ku jira oo ka shaqaynaya habeen iyo maalin ka seexanin lacag ku soo qaata wada inan yaroo half oromiya ah oromadii Soomaaliyada oromadii Ethiopia-ka wad garanaysaa half oromiya ah iyo half muxuu haydeenay Soomaaliya oo Kristaana ayaa Australia lacag laga soo siiyay teenager
Europe iyo meel kasta wuu yimi ciyaal badan buu kala saaxiibay muxuu haydeenay social media Facebook iyo meel kasta وأنا مانا يا فصحوا بعد بنتجينا كلاب بنتجينا أدوم بنتجينا المهير هذا مسكحي سكك أنا كلاب تجيا أنا قاعد واحد سوء جيا وأوكي لكن مرك قرشة هي هذا هي organization هي ضد كذب يعني يلا عقو هي معركتي ما تشرح باب العلوس تعسوا أنت أنا نقول دينا ما قرنا إيه أنا نقول كهرودنا بين يمالين إنا كي رابري كده بقول مسلمي فيديو يدي سحت كي ليس يوتيوب كرات كذا ما راح أنا وانكهض له وحير وان إيمان شري كل بطل بانتجا هول والله بلاد صور وانو سيدنا يلا وحير قرشان كسان كذا عيا الدين تاني وحن إيه وخرافات كبحنيه حرية بتكشر تدل كنا دقنتي المحا والله صادري بادري بوها إنا كاير تينيجر نوها كنيسة بالجوسو كوريي ولا تببري ضل تببر الله يدين صادري يلا صعد أيان الله هاي أنا بقول لهنا فرصة مالي الله قرتين وحن فهنا وقرين كلا دعاء الله يصح قرتين معها مركا بليس يديهنا فرصة marka waxa la dadka isbedel doonka raba isbedelka ka raadina meel baas isbedelka waynu ka raadinaa aqalkeena inaan baa shalay toole soo galay live-ka qoladii wallahi waan ku xiray xaqani waryaareen wal raali noqdo dhinacna aan ka hadlayaaye wuxuu yiri aqalkeena aynu ka bilowno quraan ha lagu shiday buu yiri guriga quraan horta suuratul baqara ku fura naag walba isku buuqsanay iyo nin walba isku buuqsanay naagtu dhibtay ma ogid sixir loo qabtay ma ogid muxuu haydeenay in maanta oo dhan musabiyaalad u sheekeynaysay ya ma ogid in maanta oo dhan social media ku jirtay oo iyada kugu yara buuqsanayd oo dhowr goor aad ku qalqayliday ay buuxday oo postpartum iyo dhibaato kale inta u soo dhex raacday ma aragtay iyadiiba qiil ay doonaysay dabeetana ay kugu kacday soo xad garateen maaha quraanka inuu ku dadaalno Allah inuu soo hadeeyo anigana Allah ii soo hadeeyo Soomaali xamood aad tiraahdo Allah ku soo hadeeyo inaad iyagu u dan leeyahay Ilaahu anigana ii soo hadeeyo qof walba dhibaato leeyahay iimaanka waan idin sheegay iimaanka qofka bini'aadmiga marna uu ka amarna uu dhaca Ilaahay kuwa mar walba u zaa'id yahay naga dhigo yaareen asxaabtii waan xiray maanta let me see marka wuxuu yiri naagtii baa sheekada waan idin dhameystiree wuxuu yiri inankii sheekhaha gabadhiisa uu ka haystay ciyaalkii dalkii uu la tagay meel uu dalka kala tagay inanka markaa noomu sheegin dalkii uu la tagay naagtana ka daba tagtay buu yiri hana baraatada naagtii ciyaalka ka soo kaxaysay sheekhiya ninkii muraar dilaacde ninkii sheekha caruurtiisi laga soo kidnaab garay laga soo baxsaday reerkiisii ka waran walaalo isaga u taliyay bal dalkii ma meel ka fiican baa jirta إلهي يا نقول عليه ضلك يمك ورتقدي صوتشر وانتقيا تقدي صوتشر وانتقيا ورا لا يا أنا رنت قدي شيء جاي ضلك يحب باب لو كتشرا حفلة دقتانا وبليس قرصنا يا بندمي جيم ما يدين كأقبة إلهي بس كين بركة يا أنا جنا هالكنا ماسك حدا سيدا يلا لأن لا يهايو مركزا ما لا تقولي كرتا متشرت ما لا أنا تبلنسي سمي سنين والله يكتين دباك استاكتي ما والبنا ما يركيجا كل شيء ورقد ولا يه ماسك هدا أنا تحرني نفط هدا كاد عيس نفط الدودي نفتك بسوق علينا يسي هدا فرمسيكا أو طونتو ما قولي كرتي مركا تاسع أنا هاي سطة هذا بقى أنا برنامج كني وضعنا تأوجع علوس أن دوني مركا ما أنت هذا إنك هذا وحوية الله ورياره على النقطة عندي دوني سنة ضد قيب قشة أما رأيي كود درسنا يساء وأنا دين فري هل كنا حيسا إقاضي وحم هذا الشان يدكم وقت أنا رير بادية وحنا هاي بابليك هذا وقت تأوجع مهم سنة دوني إنك هذا هذا أنا قاعد أجلسين وحويا أجندها قرصون إيرر قلباتكم محوية بيباليني شيء بيبالينو شيء أجندها قرصون إيرر قلباتكم محوية هبلو دقيه نفرق بليس شرقرية البرنامج كان وميد أنا جاي نعاونه وميد أنا جاي عاونه والله أنا ديبو نقدر دقيسته أنا دي بقول نقدر دقيسته عيد بي لما يسوق لنا أنا دي بقول نقدر دقيسته waxay dadkii ka hadlaayay way mar badan oo hadlaayo pointkii ku dhaafayo adigana ra'yigii intaad markaa yara dhageysato ka daba geenaysa ajendaha qarsoon reer galbeedku muxuu yahay ya ama fargelintan faraha badan ay ku hayaan dalalka islaamka
dalalka islaamka waad ogtiin in lacaga badan ku bixiyaan inay xitaa maaragtay xagga dhaqaalaha iyo tacliinta ay kala dagaalamaan oo yidhaahdaan okay ka baxa diimaha badan waxaanaad fidinaysaanoo dumarka hala soo kiciyo dee dumarka hala soo kiciyo waxa lana baro jaamacadaha lanoo furo oo dhaqaalaha lana siiyo oo maaragtay ooladaad laakiin gabadhii waa gabadh iminka sawaayad baan xashay hadda waaniga idinla hadlaayo mawduuc muhiimaan ka hadlaya sawaayadna maanta waan xashay hadda markaan dhamay sawaayadaan dubaya wax waan bartay waan shaqeeyaa taasi ma iga hor joogsanaysaa noloshayda kale inaan watay dumarnimo maya sama maaha yaan la iska dhaadhicinin hadda hablaa laga dhaadhiciya naagta hadday cunto kariso guri hagaajiso naag maaha muxuu hadanay jirta walaalayaal yaan been laysku sheegin dhaqankaagu waxa weeye iyo hiddahaagu waxa weeye gaashaankaagii iyo diintaadu qofkaad tahay bay tahay waa tooshka iyo dahabka aad u gudbinaysid maaragtay next generationka iyo ilmaha dambe iyo qofka dambe soo dhalanaya wallahi waan carooda hablaha Soomaali markay yiraahdaan ma aqaan cuntada sida loo kariyo makhaayada cunto ka sii qaadan habeen kasta makhaayad meel laga qaadan karaya cunto iga taga ku dhintay waaba ku xanuusta cuntada makhaayada laga cuno habeen kasta anu waxaan jeclay decent meal inaan hotel tago restaurant khatar oo kala kacsan maybe once a month maybe every 2 weeks once yeah cuntada fresh organic aan jecelahay guriga taala fresh juice vitaminkaaga cun beedkaaga cun jirkaaga saas isku haysanaya weligaa ya allaha xitaa skinkayga xitaa ma qaban karaayo you know waan ka wada sheekaysan doonaa nafaqooyinka waxaa naayaadhaha naagaha qurxinta jecel gala maaragtay Somali fashionista videos on my YouTube ka daawada videoyada nafaqada timaha iyo hagaajinta wajiga naag dambe oo tiraahda ninka waa iga carreeyo ma maqli karaayo okay ma waxaanay raggii naga cararin baa wala inagu diraya habeen iyo maalinbe yeah Farah Ing what the hell is that I don't know yeah ragga yaa sumcada laga dilin ragga Soomaali waa rag taliyago rag geesiyaala yaa sumcada laga dilin I don't know qashinka iyo qoshashkan meeray dumarkani ka arkeen ka soo aruursadaan anagu ma garanayna de yeah ciyaala suuq kasta oo la hadad istaagtad la hadashid de adiga weeyaan mushkilad ku taala ma garatay naag walbo aqli lama hadlayso mid walbo aan si fiican loo soo edbin loo soo rabaynin hooyo wanaagsan ka dhalanin yeah ma garanaysa dad wanaagsan la dhalanin ma garatay waa dadka la iska ilaalin jiray yeah yaa ku la hadli jirayba waa la iska ilaaliyaa waa in habluhu ogaadaan ilaa qof walba la hadli karin oo ay ka qaalisan tahay oo ninka soo doonanaya nin qaaliye yahay oo jira oo jooga oo la garanayo ciduu yahay oo edeb leh oo waxyaabahaasi ka suurtoobin lagaga sheekeynay ragga Soomaaliyeed public ma garatay ma fahanteen marka taasi waa taasi haddaba aan ku noqdo ajendaha qarsoon reer galbeedka meelo badan buu barnaamijku ila maray xitaa intuu socday ma garanayo waryaadaheen xiisa ay qaaday ajendaha qarsoon reer galbeedka ya iyo faragelinta badan aanay ku hayaan horta iyagu wax horumar ay haystaan maba jirto kow yaan been la isku sheegin lifestyle-kii family-gu wuu dhammaaday ma fahanteen boqolkiiba 70 waayeelkoodii guriyay jiifaan dadka waaweyn lagu daadiyo sida qashinka kamana daba tagaan ana runta idin sheegay horumarka reer galbeedka doonaysa waa kaasi horumarka reer galbeedka ana xaqiiqada idin ka sheegay runta hadaba horumarka reer galbeedka ya waa kaasi horumarka reer galbeedka beenta leeyni ka sheegay dal horumaraan joogna sidaan aan nahay waxaas ka baxa waayeelkooda shaqafsaday waxa lagu saasaa loogu daadinay sida qashinka loogu tuuraa zibaalada yirmuhum zay zibala am telling yirmuhum zay zibala ala duul waliba lagama tago daba tago markaasay oranaysaa inta warqad saxeexdo maydkayga ha tusin xitaa gabigaygaba way ogtay inaan xitaa maydka ka bixinaynin markay dhimatay inaan ka bixinaynin xabaasha yara lagu aasay ogtay inaan xitaa ka bixinaynin markaasay oranayaan cremation maxaa la yiraahdaa annaga idin sheegnayna dhageysta annaga halkan joognay kunkii kala yaaci baanu nimide cremation waxa la yiraahdaa sidii hinduuskii hore ya hore ma oranayda waa diin qadiimiye diintan ay caabidaan hindidu qaadato aflaanta hindida ma daawan jirteen hindidu markay dhintaan kuwa hinduuska ah way nagi daawan jirnay aflaamtay inta maydkooda geeyaan badda dhinaceeda
ay u dhisaan sariir xaaba ah ay saaraan maydkooda ma gubi jireenoo ilaa intuu qoriga ugu dambeeya hurush noqonaayo dambas noqonayo ma dul taagnaan jireen saa ma u dul taagnaan jireen cremationka taasaa la yidhaahdaa haddaba gaswad dalalkan horu maray oo vidnaa dadkii loo samaystay maydka ay ku gubaan waalidkood inta lagu tuuro guriyo ma aragtay daaral musniin la yidhaahdo oo dowladda caawiso oo la geeyo oo dirxi galo oo lala hadli waayo maalin waxa lasoo dhigay mid ciridkoo dhan dirxi galay wallahi waan muraaro dilaac oo faalig dhinaca kaga dhacay odag uu qalalnaa gebigiisaba afkoo dhan ba ciridkoo dhan baa dirxi googooye kaasi waliba inankiisa wuu u tegi jiray wuu soo eegi jiray adduunyadayda noloshayda maan indhasaarin qof nala dirxi ku galay waanan arkay qof dal galbeed jooga u dhashay oo citizen oo waayeelah oo muxuu haydana inta la geeyey muxuu haydeene elderly house dirxi afka kaga galay kowdhe horumarka haddaba reer galbeedka waa kaas idinla doonaya soomaalida maaragtay doonaya inay majar habaabiyaan dadkeena masaakiinta ah wadan horumaraad joogta sidaa doonta yeel sidan yeel nin kulama hadli kara naa bacdiisa madu u tuur naa sidan yeel naa sidan yeel waxaas weeya haddaba anaga arrinta idin sheegay maxay doonayaan in marka aad gabowdo lagu tuuro guryaha dadka waaweyn oo daxi kuu galaa maad ku dhimato dadka waaweyna maxay sii qoraan warqad bay sii qoraan intay miyir leeyihiin maydkayga ilmahayga iyo ehelkayga ma tusi kartid ikrimayd gareeya that means gebigaygaba iguba dambas iga dhiga markaasaa dambaskiisii inta daasad yar lagu shuro madeebad yar oo daasad yar sidaas oo xidhan ayaa la odhanayaa yaa la dhashay saa la odhanayaa waa kaas aabbahaa ee qaabo innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun ma horumarkaasaad soomaali la rabtaan ilaahay ka boqo ummadda islaamka daaya maxay sameeyaan caruurihiina dilay yidhaahdaan naagaan 10 goor ilma iska soo xaaqin oo ma aragtay horumarini ma jirto dalkan reer galbeedka annaga runta idiin sheegana dhalagii baa wada dalooshamay maxay caruurta Soomaaliyeed u qaadanayaan habeen maalin caruurta Soomaaliyeed maxay u qaadanayaan dhalagii baa wada dalooshamay weligeed ilma dhali mayso 14 jir maalinta ahayd ilma saa iska soo xaaqis iska soo because wax lagu yiri xorriyad baad haysataa shaydaan kasta ha ku fuulaan lagu yiri xorriyad baad haysataa maxay sameeyaan caruurta sigis iyo balaayo loogu baraa muxuu hayay iskuulada mashi la leeyahay soo iska daaya yaanu kala kaan videogu noqonine waad aragtaan baan malaynaya caruuraha waxaan yiraahdaan sex educationka waa ma jar habaabin baan idin ku yiri communityga islaamka lagu burburinayo kowdaha dan kama laha naagta kula waad horumaraysaa horumar baan ku wadaa waxay doonaysaa inay inantaadu noqoto kuwa halkan degan eenu u nimi ee nabad darrada iyo maaragtay dhibaatada ay inoo keento yaa naagahan westernka ah maxay u doodaan dhowr iyo 40 bay xuquuqdooda qaateen dhowr iyo 40 diinta islaamka goormay dumarka siisay xuquuqdooda weligaa baad xorahayd xorriyad baad ku dhaltay naaya indhahaaga fur yaanay naaga kugu odhan haddaad xorriyad u baahantahay haddaad sidan u baahantahay anaa ku xoreen maxay xoreen ordo xoreen naftaada dee go do something for yourself naaya adigu anu xorriyadkaaga ma baahanayay waan haystaa xorriyad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa i siiyey I have xorriyadayda I will have it forever anoon dhalan baan xorriyad lahaa naaya dhowr iyo 40 bay naagahani qaateen maantana maxay marayaan inay makaankoodii soo xaaqaan oo maanta arkayna habla Soomaaliyeed oo YouTube intay soo fadhiistaan odhanaya naa ordo oo wicil dhalo oo ka doontaan la seexdo iska soo xaaqa way dhacday waa xorriyada imika leedin leeyahay leedin ku baaqaayo sax garateen maaha marka yaan la isma jir habaabinin walaalo waxbaan la isma jir habaabinin dambigaaga yu ka badanin masar yarood madaxa ka qaado because adiga ay ilaahay waxaan oo dhan protection buu kaaga dhigay been baa lagu sheegayaa gabar Soomaaliyeed been baa lagu sheegayaa ya naagahan waayeelkoodii ku tuuraaya daaral masniinka iyo guryaha dadka waaweyn ka daba tagaynin habeen caawinin ya labadii walaalaha haday casho u wada baxaan sanadkii mar ya oo restaurant wada fadhiistaan mid walba jeegiisu dhinaca ka bixinay half and half mad noloshaasaynu naqaanaa neef dhan baa reerka dhan loo qalayaayo markaas reerka dhan la wada cunayaayo habi baa lagu wada jiraa alxamdulilah ashukri I miss maalmihii sixni maaragtay inta sida cunto ugu soo wada ridano aniga iyo walaalada iyo ilmaadeerada gacan aan wada geli jirnay kala boobi jirnay muxuu haydana baytraafka iyo saladka I miss that day adduunka waxaan ugu nacabahay inaan kali wax cuno imikana way nagu qabsatay inaan kali wax cuno
soo xad garateen maaha yaan been laydinka sheegin nimcadan iyo xorriyadda laydin sheegaya waa majara habaabis waa laydin majara habaabinaya been baa laydinka sheegaya waa ajandaha qorshaha qarsoon ee reer galbeedku doonayaan inay ku tafaraaruqiyaan mujtamaca soomaaliyeed ee muslimiinta ee dalalka reer galbeedka degan laga kaashaqeeya suda too much anyway la yara qabsada bal xoogay السلام عليكم سو dhawaada asxaabta maya walaalo eeg waxa weeye adigu waxa doonta raac laakiin anigu waxaan diidanay in been loo sheego oo la dhibo qof dhibaataysan ma fahantay oo inagii nolosheenii macaanida udgoonad xaar laynooga dhigo xorriyad baad haysata sida doonta yeel walaalo xorriyad waan ku dhashay waanan haysan doonaa ya soo xad garatay maaha markaa weli waxaan ku gudi jiraa qorshaha qarsoon ee reer galbeedku ma aragtay iyo faragelinta ay ku hayaan reer galbeedku dadka islaamka siiba soomaalida imika oo soomaali badan laynaga dhex kiciyey caruurtooday dilaan ilmahooday dilaan ya naaga dhala ayaa maaragtay dawladdu ka qaaday caruurta intay haysteen naag baa ilmaheedu maalin walba naqas ku dhigi jiray video waan idiin soo dhigi doonaaye ilmihii caafimaad qaba kog naqaskun baa ku dhegaya naag waa kay wacaysaa soo doona ilmahaygi naqaskaa ku dhega dhakhtarkaa loola carara ambalaasta waa la baadhaa ilmihii waxbaa lagu dhajiyaa waa la bahaleeya naqaskaa lagu guraayo ventilator baa lagu xidhaa balaayo dhan baa lagu sameeyaa ilmihii wuu caafimaad qaba fay bele ma qabo markii dambaa kamarad lagu xidhay qolkii saanka yaaf ku bay qabato ilmuhu mishiin ku xidhnaan baa d waa lagu soo qabtay kamaradii baa la daawaday waa laisku jabiyey aabaheedba dadkaasaad markaa doonaysaan xorriyad ka raadsataan calaykum assalaam yaa caruurtooda malastgareeyaan yaa malestationka laga bartay iyagaa wax malastgareeya malestationka ugu badan iyagaa sameeya baadariyadooda konton ciyaala foorariya inkaar allah ku dhacdee soo xad garatay maha iyagoo yidhaahday ilaahayda ayaanu ma aragtay isqabnaa ma garateen maanu anagu ka hadalnanu cayno ma rabna dee because waxa weeyaan way ogyihiin qurunkooda iyo qashaabiirkooda laakiin yaa la tusay naag soomaaliyeed iyo nin soomaaliyeed oo yidhi diinta islaamkaan ka baxay soomaali dee ka bax wixii aad ka baxdeed nacni miyaanad kama bixinba qofkaas garan wada xagga miyaanad ka marin miyaanad danahaaga ka raacanin ya miyaan ahayn maxaa kugu warwareejinaya meelaad dee ka tabaabulshaysatayna adeer haddaanay maaragtay beris kaa gelinayo warware kale aanad ku jirin ma garanaysaa ya waa laga cararaaba meesha aanay waxba ku oolina anyway aan ku soconno waan ku yara raagay caruurtooda ay dilaan caruurtooda ma lasgareeyaan oo laga qabtaayo fuulaan markay sarkhaamaan muxuu ahaydeenay reerahooda bay kala jajabiyeen ma garanaysaa oo naagtii imka waxay gaadhay heera ilma isku beertay tiraahdo siday makaankeeda u walaaqaysay 10 iska soo tuurtay yaa ay heer gaadhay ay intay tagto baan maaha baan caadiya xalbi idiin sheegay waad la socdaan intiina fahmaysaa intay baan tagto oo catalog loo dhiibo waa buugga wax laga dalbado menu kale weeyaan ayna ninka indhaha buluug galay kaatimaha blonde ka leh ka igada ka indha yarha haye kan muxuu qabtaa ha ninkaasaa raba inaa ilmihiisa dhalo waa nin tabaruc sida dhiigga haddaad fahmaysaan waad fahmaysaan wallahi qoladii maanta whatsappka waan xidhay masaakiinta raalli noqda haddaan doono waynu bahalayn doono suga asxaabi bar halkana waxay leeyahay fariimihii laga soo diray nin tabaruc bixiyay bay wixiisii qaadanaysaa markaas oo nin uma baahni ilmuun baan rabaa ilma maxay ku korin maskax ilma lagu koriyaba ma lahe ilmaha maxaa loo dhalaa ilmaha ma la isweydiisay Soomaali ma isweydiisay wax ilmaha maxaa loo dhalaa ilmaha maxaynu u dhalnaa inaga qofkii Ilaahay siinay weeyaan ya dad qadarka alla aqbalay bayna noqon maaha alxamdulillah ilmaha maxaa loo dhalaa ilmaha waxa loo dhalaa waa nimco Ilaahay ku siiyay office bring inuu Ilaahay ku siiyo inuu Ilaahay ka reebo excuse me I'm being happy bismillah إلهي offspring كاريبو عرور كاريبو community مجتمع واحد
tara hadhow toole naftooda wax tara aad u noqotid tusaale fiican ilmo ducaysan inuu ilaahay ku siiyo ilmo caafimaad qaba lagu ducaystaa markasta ma garanaysaa ilmo aan dhib lahayn adiguna waa la iska ilaaliya dhibaatada community-ga marka naag tiri muxuu haydeenee nin ma rabo 10 horena soo dishay imikana tiri waxaan doonaya ilmo inaan dhalo oo doonaysa waxa ku mashquusho oo u dhalaysa ujeedadiiba aan u dhalaynin ilmaha loo dhili jiray nin ma rabto nin way ka soo horjeedaa 10 caruur hore way soo dishay oo diyaar uma ahayn inay ilmo dhasho hadda eegaya diyaar uma ahayn inay ilmo dhasho 10 hore soo dishay oo iyadu ma aragtay ilaahay siiyay ya oo warwareeg diyaar uma ahayn jaamacad baan dhiganay sidana sameeyay haddaan diyaar ah imikan diyaar ah inaan ilmo dhalo 40 kii bay qaraacaysaa ilmo raadinaysaa baan bay tagaysaa lacag bay ka bixinaysaa 500 goor baa lagu mudayaa way uraysanaysaa ilmahaasay dhalaysaa horumarkoodu waa kaasi ama horumarkaasaynu rabnaa ma rabno waxa ma rabno walaalo ma doonayno I don't think inaan waxaa doonayno kawdhe hadhow toolena waa kan ku tuuraya ilaan weligii muu arag iyadoo hooyadeed la hadlaysa iyadoo wax qabanaysa aabba muu arag bara muu arag wax kala sameeya wax kale muu arag muu sameey ya maalinba nin bay keenaysa guriga maalinba nin bay keenaysa sidoo doon ilmaha ka yeelay hadhow wuxuu ku tuuraysaa muxuu haydeenay waatan ku tirsadaa doonta noqo nin noqo naag noqo shuushadaan kuu xidhayaa dabada suro faras baan noqonayaa dheh noocaa doonta noqo xar baa tahay geesa yeelo muxuu haydeenay wax ilaahay la yidhaahdo noocu doonaha ahaadana maba ogoliba bay qaarkood odhanayaan ya diintu doonaha kasoo jeedee ya 80s baa noqonaya 80s hadday doonan qaar baa ilaahnimo sheeganaya iyagu kawdhe hadhow islaanti markuu waqtigeedu gabaabsimo ayaa lagu tuurayaa meelaha odayaasha islaanta la geenaya ilaa way ogtahay halkaas hooyadeed geesay kamay daba tegin iyana way ogtahay halkaa inay tegayso inaanu ka daba imanaynin waxay ku qoraysaa iyaduna warqadaheeda ugu dambeeya ya haddii maaragtay aan aada u sii daciifo hala idilo yaan lay badbaadinin maba rabtaba way ogtahay magaxxumada adduunka kaga tegayso ya way ogtahay inay jilicsan tahay oo aanay adduunka keensanin qof hagaagsan oo asturta oo ma aragtay dee u galaya sidii qof ma aragtay hagaagsan oo sharaf leh marka ma noloshaasaynu inagu doonaynaa walaalayaalo is that the life we want Soomaali haddaynu nahay ma noloshaasaynu rabnaa horumarkaynu doonayna markaasa aynaynu isweydiinaa horumarkaasi anigu ma rabade horumarkaas kaas horumar ma aqaano kaasi waa halaag في آخر هلاك ويان بسم الله الرحمن الرحيم marka anigu leeyahay horumar dal horumaraad joogta horumarka yaan been lagaaga sheegay waa naag ilmaheed soo xaaqday waa nin 10 kun goor naaga soo uureeyay oo magaras caruurtiisii qaarna dilay ragga qaarkood baa ka bixiyay oo saaxiibadiis jaamacad baynu ku jirnaa inay orado ilmaha iska soo xaaq 3 goor buu ilmaha ka soo xaaq lacag bixiyo hadhow uu doonay 5 markuu yahay oranaya okay guri baan haystaa gaari baan haystaa 10 vacation baan u baxay oo fasaxyaan u baxay ya maxaa iga dhiman inaa ilmo dhalo weeyaan markaasuu ilmo raadinaya uu $300,000 ku bixinaya ilaahay markaasuu odhanaya markaasay dawladoodana cararaysa markaasay odhanaysa okay dadkan masaakiinta ee sida ma aragtay bakaylaha u dhalaaya 10 ka sita laga qaado laga xaalufsado tan isla hadlaysa la waalay tan beenta loo sheegay tan horumar iyo magarasa ilbaxnimo loogu ballan qaaday tu kala ma jira habaabisay ayaa la odhanaya waa taas soo fadhiisan weeyday laga qaado caruurta markaas caruurteena sidii ku baxayaan marka walaalo waa ajandaha qarsoon ee ajnabigu dalalka reer galbeedku ay ku hayaan ay ku wataan ma aragtay inay ma aragtay kuma jira habaabeen dadka islaamka qof walba dhaqan iyo diin la diintu doon ha ahaado waa lagu kacsan yahay sababtana ma garanayo waxa weeyaan anigu ma jira habaabay adiguna igu soo darso maxay barmood gareeyaan oo mar walba ma aragtay doonaan inay kor u qaadaan diin la'aanta iyo ma garanaysa amal shaydaanka ana arinta idii sheegay dadka luciferianka ee le anagu waxaan aaminsanahay devilka shaydaan caabudayaasha ayaa ka badan dadka diinta bale halkan ma garatay gaalada badankooduna waa shaydaan caabudayaal xarumaha dhasha lagu soo xaaqa tiradaas ka bateen madaxweynahan haysta hadib badnaade maxay ku haystaan xarumahaas oo dhan baan xirayaa buu yiri maxayna u rabaan inaan xarumahaas la xirin guess what
waxbaan idiin sheegayaa dad badan oo lacag haysta oo Hollywood iyo dadka maaragtay madaxda sare yaa ee globally doonay inay controlaan mujtamaca adduunka oo dhan Bill Gates iyo qaar badan ka mid yihiin kulligood wada Luciferian wadadka caabuda muxuu ahaydeenay shaydaanka caruuraha sacrifice bay ku sameeyaan sacrifice caruuray u dilaan marka ay shaydaanka caabudayaan human sacrifice wax la yiraahdo sameeyaan soo xad garateen maaha waxani way ka weyn tahay mushkilad qof yar oo dhibaato haysto inagu hore la inooga digay waa inaynu ka digtoonaana yaa world domination bay rabaan inay adduunka dhan controlaan ma garatay qof walba faraakayaan waa distraction wax la yiraahdo dhinac kasta lagaaga hoobinaya dhinac kasta yaa horaaba loo yiri qoom hadda 40 maalmood la noolaad ka mid baad noqonaysaa laakiin inaga maxaa taasi de garasa laakiin inaga maxaa leenagu wacdi waxa la yiri ka haysta diintiin iyo dhaqankiina yaan lagu la yaabin qof maradiisa jiidayaan arkaa saasanaga waan qosla qof dhaqan leh wallahi billahi ta'ala ana rabti idii sheegaya waxa laga faana ana idinku faanayaan rabti idii sheegaya Soomaali badan baa yiraahdo sheeganin xitaa inay Soomaaliyiin jaska khashaafin anu kaba khashaafo maxaad ku khashaafaysaa dad tahay qofka tahay baad tahay it does not matter long time ago berigii muxuu ahaydeenay aanu jirin ba Facebook iyo adduunkan ayaa sameeyay muxuu ahaydeenay vlogger baan ahaa no blogger vlogging oo marka video blogger baan ahaa dadka badankooda waxay ga yaqaanaan barigan blogging ka sameyn jiray yaa mySomaliculture.com baan sameeyay somalifashionista.com somalifashionista hadda imay soo raacin labadaaba waxaan u sameeyay wax walba oo aan Google-ka ka raadiyo waxaan arki jiray burcad badeed Soomaaliis dilaysa dad gubtay balaayo la dhacay inagoo gaajoonayna inagoo weel madeebada ku haysanay inagoo feedhuhina soo baxan inagoo bahdilan inagoo khasaarnay inagoo yacni the worst picture Soomaali laga soo qaaday ayaan arki jiray maan arki jirin anything qurux badan maalintaas aan go'aansaday inaan sameeyo muxuu ahaydnay bloggaasi mySomaliculture gabayadaan soo dhigi jiray dhaqankaan soo dhigi jiray waxyaabaha quruxda badan baa soo dhigi jiray YouTube-ka markaa jiray wixii yaraa hagaagsanay YouTube ku saarka waan soo dhigi jiray berigi dambe Facebook-ka la furay qolkii mySomaliculture weli waa furan yahay Somali fashionista-na wuu furan yahay yaa YouTube-kana Somali fashionista videos waan furay ujeedadu ma aha waxa way wax walba wanaagsan dadkaaga ogolow adigana ilaa wax wanaagsan ku siinayaan at some point haddaad qof in yaro wanaaga uu ka faa'iido ma garatay waxa way community-gaaga waxyaabo badan baad u qabatay marka indhaheena aynu furna baan idin leeyahay maan rabin maanta waxaan kasii jeclaan lahay isagoo debate laakiin aad baad ugu mahadsantihiin intiinay dhegaysanaysa ee kasoo qayb gashay marka walaal waxaan idin leeyahay aynu u ducayno dadkeena masaakiinta ah ee dhiban dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aynu ammaanayno wax kaga dayasho tusno dadkeena hormuudka tooshka oo ah muxuu ahayd community-geena activist-ka ugu horeeyo wadaadadeena iyo culimaa u diinkeena ha ugu horeeyaan dadka maaragtay hooyooyinka habeen walba u kaca caruurtooda ee reerahooda maamula ee geesiyaasha reer walba hooyo adag ayaa ka soo baxday oo ina waday oo ina la qaxday oo ina soo badbaadisay oo dibad ina keentay inaynu proud ka dhigno miyaanay ahayn kuwaas maamooyin la oran karaya inaynu proud ka dhigno oo ay ma aragtay sharaftooda kor u qaadno ayaynu ma aragtay xaq inoogu leeyihiin intaasina wax culus maaha waa inaynu inagu samaysan karayno heestii hooyaan inoo yara geynayaa waxaan ku noqonayaa guntiya gabagabadii wax yar wanaagsan baan rabaa inaan idinla sheer gareeyo waanaad mahadsantihiin fariimihiinana waan akhriyayaa intaas asalaamu calaykum ku jira ha ka bixina kobta tan yaan lagu kala tegin meel fiican bay maraysaa ee wada sheer gareeya anu waan idiin sheegay haddii laba qof i dhegaystaan ama ay dooda kasoo qayb galaan oo intelligent oo wax fahmaayo wanaag dadkooda la raba labadaa qof bay aniga iigu eg tahay 500 qof oo cay doonaya aniga dani iiguma jirto because waxa weeya ujeedadu taasi maaha yaa gabaygan aan idinku celiyaa gabaygan aan aad uga helay alla maya kan muu ahayn suga raali noqda yaa dhaqan guur baan yara geynaya baxsanina dhaqankaad necab tihiin
wax ka dhigan dhibaatooyinka inagu dhaafeene inkastaba dhacdada yaab kaliya dhabar jabkaa muuqda dambaalada iswada dhaafay iyo dabadda loo dhoofay dadweynaha la dhuraya arliga laga dhammaynayo dhalanteedka iyo beenta iyo dhaganta hoostaalla waxaan dhaxanta cidin baa jiro ku dhadhamahayne dhaqaalaha ajnabiga iyo nibcada wixii loo aaday niman baa u soo jeeday oo soo dhalaalsaday soomaalay haliishaadu waa dhiga adaygiiye idinka dhulkiinii gabiye dhaqashadiisiiye midta laga hortiin ugu dhaqaaqayo xumadaasi waa kaa dadkii guursan jiray goobta iyo tarane inkastoo qaxoogta ay dhigteen lama dhaqaalayni hadday dhaclaha qaadan jiray gooyo dhaqankiiye dhaamiiradii baa raggoor dhinac ka raaceene dhawaaqooda yeeraya iyo dhiigga laga daadshay kaba dhiidhinaysaan haddana waa la dhalabteen dhaleecaynta u wada qabtan mana isdhaaftaane ku dhammaatay ka deemsiiyo dhamac xisaaseed dhuuli awey mihiga iyo qurbaha ubadka loo dhoofshay rabbaa deefta bixiye intuu dhulin lahaa gaalka dhulkooda u roonaa kolay dhagaxya quutaan anigoo wixii dhacay iyo wixii lasoo dhaafay soomaaliya dhibaatada ku timid waa mid nooc weyne sidii calanka loo dhaliyey baa dhagabtu taagnayde sidii calanka loo dhaliyey baa dhagabtu taagnayde qof kastana dhaliil iyo waxqabad ugu dhitiya kayde inkastoo dhismiya maamulkii rag isu maandhaafay oy dhabaqday xaajidin inay dhacanta ma ahayne dhakafaarka iyo jibaan dhabanka haystaaye isu soo dhawaantii haddii dhagad la moodayin oo laysku wada dhaafay oo dhinacba meel goostay allayla edib baa muuqatay dhagad iyo yaabay dadku caynkan waa daami jiray dhuguya maamusi dhalintii waxgaradkuna sidaan uma dhantaalayne weligii dareen wada dhiso dhiiran baa jiraye adan guuris baa idinku dhacay dhaawac xog badane dhakafaarka dunidii dhibtina way ku keligiine idinkaas damiyo harkii cunay isiiniye weyn aad dashay madaxad halkaga dhaqaaqdeene dhafandhaafka geedida dasay yaad ka dhaxayseene iska dhiciye mooye wax kale dheg uma taagtaan hooyanimadii waa dhaawacdeen waana dhagarteene wixii lagu dhammaaday wixii dhiiga lagu daadsay dhigaatii iyo wixii xariga faraska ku wada dhuusay waxaan dhoon horaad iyo dhig iyo udub dhaxaad taagnay ama dhiil agloolno qumbaha dhab ugu aabaynay dhagal iyo dhambala cawsle iyo dhaxantir weylaalis aqalka dhexdii dabada dheeg dhalada raaraynay dhalanteed hadduu kala furfuro waa dhagxumo weyne dhaqsari kuma helaysaan waxaad maanta dhumisaane imanaashahooda wax badan loo dhufinayaaye gumaystana labdheene hadduu dhacanta soo jiiro mar labaad haddii uu dhirsado kama dhigaysaane haddaa taladu bixid iyo dhugmaba idin dhex taallaaye dhankay ugu habboon tahay ka mara daarna ugu jiida haddii kale markay dheelidoo kala dhacdoo dhimato oo maydo ruuxa dhibsadaa yuusa jiri ceebu waa dhicine haddii kale markay dheelidoo kala dhacdoo dhimato oo maydo ruuxa dhibsadaa yuusa jirina ceebu waa dhici dhalanguur yaa salaam alla ilaha samaydaan ka dhargin waxa weeyaan yaan layna odhanin meel baan idiin wadaa meel laynoo wado ka fiican halkaynu joognaa ma jirto anaa runta idiin sheegaya wallaahi bilaahi tallaahi meel ka fiican halkaynu joognaa ma jirto kawdhaha yaan been laynoo sheegin ma rabno hablaheena yaryar in laydhaha xorriyad baad haysataan oo inta been loo sheego oo gidaar kasta lagu fuulo 10 ciyaal iska soo xaaqaan ma rabno hooyada doonaysaa waa tee carfartaa soo tagta hooyada doonaysa saasaa laynagu wadaa ma rabno no more baan idin leenahay no more nagala taga beenihiina iyo balaayadiina ilaahay baan idinka madan galnaye absolutely yaa kaa dhaqan wanaagsan yaa kaa cunto wanaagsan yaa kaa qurux badan yaa kaa sharaf badan what are you talking about yaa kaa xorriyad badan 1400 sano ka hor ayaa muxuu haydan aad xor ahayd xorriyad baad ku dhalatay habeen laguma gumaysan naag islaama baad tahay anaa runta kuu sheegaya yaa dumarkan ay noqotay westernka ah dhowr iyo 1940 baa xorriyad la siiyey say u ooyayeen oy waxba u samaynayeen oy dowlad loo diiday waxba geli kara waayeen waxba yahay ahaayeen maxay sameeyeen mudaaharaada istaagaan xuquuqda ilmahaan iskaga soo tuuri lahayn baanu doonaynaa intay boodhar qaataan caruurtaanu rabnaa inaan iska soo xaaqno xuquuqda ayagaan u dareemaynaa dhaligayga anaa iskale naaqalinkaartan dhacdo eega islaama boodhar waaweyn qaatay naa walaal ma xorriyadaas naa walaal
sheeganaa Soomaaliya nax ma idin sheega inta inaynu dhaanaan anigu wallahi mooday balaayada aan ka qoslin balaayo ma yaa xorriyadan aad ka raadinaysaan meel aan jirin anu ma garanayo de yaa badda naagahan aad daba dhiganaysaan 10 goor bay caruur iska soo xaaqeen 10 goor bay caruurtoodii dileen waa wada killers markaasay ku odhanaysaa waxba igama gelin iga soo dhufo markaasuu odhanay intuu lacag siiyanaaya iska soo xaq haddii kale dib kulama saaxiibayo boyfriendkaaga ma ahaanay walama waxaasaynu doonaynaa do you want that okay Soomaaliga mujtamac Soomaali waxaasay doonayaan inamada Soomaali waxaan weydiinayaa miyaad rabtaa naag 10 goor iska soo xaaqda ilmo inaad guursato oo hooyo u noqoto caruurtaada ilaan idinka eedii layda saaraya la leeyahay raggii iyaga hablihii wax walbo xun baraaya berri toolana odhanaya ma garanaysaa muxuu haydeen waxaan doonayaa inaan sharaf loo hagaagsan guess what inaan sharaf loo hagaagsan ma helisid walaal waxba yaanad been adiguna isku sheegin ya maanta dhan dumarkaan saarnaay adaan idinkaan idin soo jeesanaya ya nin sinaystay ma helo naag hagaagsan oo mu'minada ilaahay baaba yiri u sheega inamo isa soo saxa idinkuna inta xijaab waliya bila ku soo xirato waxay doonto soo saaraysaa ay halka ku soo fadhiisanaysaa soo xad garatay marka waxa weeyaan labadeenaba isku baa la noo xisaabinaya qofku khalad waa galaa una ka soo noqon kara ilaahay baan qafuur raxiim laakiin inaad bulshadaada aanad la soo gelin waxaan hagaagsanayn de xaq baa lagugu leeyahay walaal xaq baa lagugu leeyahay ya inagu waxaynu nahay dadkii yidhi dhagta haddii la jaro daloolka hadha dhagta haddii la jaro daloolka hadha weli waxbaad maqlaysaa waana lagu xisaabaya wixii lagugu yiri hadda dhagtaa ku daloosho kaliyaata dalool kaliyaata iskil inta kale oo dhan baa lagaa gooyay dalool kaliya dhagta kugu hadho dhagtaa lagu jaray dadkii yiri baynu nahay dhagta haddii la jaro daloolka hadha Soomaali dadka way ka xigma badan yihiin way ka intelligence yihiin aynu isticmaalno maskaxdeen ana runta idin sheegayay yaan lagugu yeerin horumar baad gaaraysaa yaan lagu yeerin xorriyad baad haysataa ilaahay ayaa laga fogeynaya istaghfirullayso shaydaanka iska naar meel tag ceebtaada qarso walaalka astur ya umadaada dhibaato kale ha u geynin laakiin lagama yeelaayo inaad duubsato dadka kala day wala iska qabanaya anaga heroeskaygu waayo de sheekh dir baa heroogayga ah iyo sheekh kale magaciisa aad baan u jecelahay sheekh Saciid Raage he is very handsome by the way dadkaasaan anagu ma aragtay eeganaa oo u aragnaa dad jira inay yihiin wax ka dhageysan karayno wax ka maqli karayno dumarkii jiray ya talabaad feminism-ka hadda dumarkeenu wadwadaan ya ee la leeyahay xorriyad baa lagu siinaya waxaan waxba kama jiraan weligaa baad xor ahayd naaya yaan been lagu sheeg weligaa baad xor ahayd hooyada waa xor lagu dhalay xor baad ahayd xor baad tahay hadda dhimatidna 30 kuna dambe sanad haddii dunidan sii jirto xor bay ahaanayaan dumarka islaameed ma garatay marka xorriyad lagaala tagay ma jirto walaalo iyo muxuu haydanay beenayaan lagu sheegin maskaxdan ilaahay ku sii maalinta aakhiro lena soo wada istaajiyo lama oranay kana waa nin kana lama oranay waa naag nafs baa leeyahay naf baynu nahay naftaasaa lagu xisaabayaa lama oranayo milgo konton lebay haydo dambigi konton baanu ka dhimaynaa minus halaga jaro ma dhacayso waxa sheekadaas walaal don't be make me sarcastic because I'm trying to behave wallahi ma garadeen warka waxa weeyaan yaan been lagu sheegin xorriyad baan ku wada meel baan ku wada sida doonta lahow maalin wajh hadii lagu leeyahay maadaama yaad odhanaynin dhaadaba wax ka sii yihiin waxa ku sheegaa walaalay bal caloosha socodsi wada waqsan oo quraan hal lagu saaro ana waxba garan mayne hadii kale waa ka cud bilaysanaya waa ka amsi albaabada ka xil laakiin yaan been leeyo sheegan la odhanin waxa weeyaan qofkani muxuu haydeenay xorriyad baa lagu wadaa me too weligeena aan u dagaalamayna xuquuqda dadka dhibanaha jaarkaaga uga baa leeyahay gaal haduu yahay 40 ka warhay baa lagu yiri ummadda ilaahay gaal iyo muslimka ammaan hesha baa lagu yiri ha caayin baa lagu yiri ummadaha kale baa lagu yiri ha burburinina guryahooda ay wax ku caabudaan buu ilaahay nagu yiri ya ana iska leh ba meelaha sanamada ku caabudaan tan labaad Soomaalidan maaragtay diinta ka baxay da walaalayaal diinta haday sidan u xun tahay maxay idin daba dhigay baqdintan idin ku jirtaa maxay tahay maxaad noo daba socotaan what do you want what are you looking for maxay ku dhibaysaa ku gubaysaa marada yadani
ya haddaan xitaa madaxa soo dhigso sawir ima saarna madaxa wax ma ii saaran yihiin haddaan hadda soo dhigto maxay kuu gubaysaan weli islaam sheeganay maxaadee kaa galay adu miyaanad iga kaaftoomin miyaanad odhanin anigu waan kaa maskax badanaho waan kaa heer sarreeyaayo waxa weeyaan waxaan ahay qof tegayo qof horumaray baan ahayo qof dal xora jooga baan ahayo sidaan doonaya miyaanad odhanin maxaan igay kaa daba dhigay de walaa nadaa والله وقصلي والله بالله طلع طلبات إمك واحد دنيا هذا تصو حرية القول ما أقول عندنا إلى العيد ولا لا عندنا إلى الأفلقات دي ست عندنا إلى الأبيوز كريسل لما أقول أنا لا ما أقول عندنا الصداق السماية وتشددنا ما هين أنا در حرة شوجن دوري الصد ضل أو دلك أدونك وسري وقني السنة عيا إسكور راعي إن أنا قف دينتي سلعاين العنصريين بين لقى الشيجين سبعتاش لقى السمينين ما عرفتي لبابين ما قرني صدقن كيسة sida doonaan ka yeelan xagga arrimaha mujtamaca iyo waxaas jiidashadii dagaalka hooseeya laakiin guud ahaaneed dalada wali sharciyaad jira ka qabanaya dadka marka waxaan leeyahay dad kale online ka wax ka abuse gareynaynaa oo haddana dalkan doonaan xor ugu dhoofeynaa please be careful waxaad sameynaysan I hope inaad ogtiin waxa aad sameynaysaan bas waxa weeyaan dalal badan oo laga mamnuuci karaya jira oo lagu dhitain gareyn karaayo maadaama rabsho u soo jiidaysid community done oo de ma aragtay meel walba dunida caalamkeeda ka joogta Allah inuu soo hadeeyaan leena anaga cidna la dhibaato laakiin waxa idin leeyahay anaga iyagana ma jecel in loo soo hanjiro dad badan oo soo hanjibaya baa jira diinta islaamka qofka ma aragtay nabiga caayay ilaahay qofka diinta ka baxay shuruuc buu ilaahay u sameeyay sheekhina been kama sheegi karaayo shuruucdii de xukun baa ku dhacsan qofkaasina haduu si isagoo ma aragtay aqligiisa qabo oo ma aragtay dambiga ku galo de waxa weeyaan ilaahay waa dambi dhaafe laakiin haddana de sharcigii sheekhi been kama sheegaayo ma garanaysa hadii la weydiiyo la yiraahdo qofkaas waxa uu sameeyay sheekha ka waran de runtu sheegaya walaalo marka waxa weeyaan shuyuukhdeeda waanu jecelnahay waa community leaderkayga koowaad waanu ka xunnahay kuwa yiri waxba dhibaato ka soo gaadhay sheekhyadaasi aad baan uga xumahay runtii anigu malcaamad quraan waan soo dhigan jiray laakiin malcaamad quraantan anigu soo dhigan jiray ma ahay malcaamad quraan de xiran malcaamad quraan geed yaroo la waabay bay ahaydoo xaafadda wadada dambe wadabadeedan xaafadda oo dhan mari jirtay ya oo haddaad xitaa quraankii aad subcinaysid oo aad ma aragtay aayadahaagii suuradaadii aad ka soo bixi karo weedoo lagu ciqaabo oo aad ku habsaanto de meel qarsoon oo huduulo ilmo lala geli karaya ma ahayn walaalo soo qofka ma aragtay binaamig inuu runta sheega maaha ya anu malcaamadaasaan soo dhigtay de ma garatay maan aragana malcaamad qarsoon oo qol oo kale ilmo lagu soo xiran karaayo weligay ma arag malcaamad quraantu walaalayaal miyaan ahayn malcaamadii dibadda quraanka lagu subcin jiray banaanka ahay badankooda geed hoosti bay ahaan jireen de tuulooyinka gabigooda waa geed hoosti bay ahaan jireen magaalooyinkana waxay ahaayeen guryaha dabadooda meel yaroo la waabay bay ahayd oo geed hoostiisoo sidii ood yaroo kale lagu soo xiday xeradii adhigoo kale ood yaroo ishayshaysaninoo sidaa magaraysa la iska dhex arkaayay ahayd anugu intaasaan garanaya ma garanaysaa marka qof victim sheegayna ma odhan kara been baad sheegtay laakiin wax kasta xaqiijin bay u baahan yihiin tan labaad gabadha gacan la saaro ee tiraahda muxuu haydana waa la idilay walaale hadii lagu dilay markaba dacwad police gudbi because adigana ku badbaadinaysaa ilmahagana way badbaadinaysaa community-gina way ku rumaysan karayaan tan labaad mushkiladaad ha soo bandhigin halkan publicada ha soo dhigina u sheeg inta kuugu xigtay wanaagsan ee taliya tusaale ka go'do sheekha muxuu haydana masaajidka muxuu haydana community leaderka ayaad la hadli karaysaa gabadh wanaagsan oo maskax leh walaasha guriga in adeerka meeshaasi hadday khatar badan kugu jirtay laga saaro weeyaan yaan ma aragtay victimska la cuna qabataynin laakiin inagiina de wax soconay leeynool yimaado weeyaan آمين آمين يا رب العالمين عبد السندير وانكو السلامة انت اصلا كسو ختمي يا أصحابي وبالله التوفيق آد بدو سلامتين ودي جعلي لمانتين إلهي إننا ما ركتي هاي نقرنسي ودد التوصن كوي وحسامحة إلهي هاي نقردقو كوي قلبي قدو فرين إلهي نقردقو كوي ما ركتي دادكو دون حريستا الله هاي نقردقو إننا هاي نقردقو كوي قرشالي ما ركتي في رقارة له يا عدو قودو كل حجرة حتى لقنا الشيء ولكن هذا قرنا ما ركتي اسك قبن كراي الله هاي نقردقو يا وايو حوي يعني هالكاس الله نقصو عبارين سلام عليكم